بسم الله الرحمن الرحيم dhamaan dhalin Soomaaliyeed ku soo dhawaada macadka Soma waxaynu guda gali doonaa qaybta labaad chapterka labaad ee course-ka virtualization and cloud computing chapterka labaad waxaan kaga hadalnay practice ku saabsan VMware workstation darsigan marka waa part 2 chapterka labaad waxaan marka darsigan aan focus-ka ku saari doonaa qodobkii aan darsiga hore kusoo istaagnay oo aan kusoo joojinay darsiga hore oo ahaa networking-ka in VMware workstation darsiga marka waxaan video gaar ah kaga sameeyay waa muhiim sida marka darsigan u fahanno waxaan sameyn doonaa practice badan marka hore waxaan ku bilaabay theory ahaan ayaan concept ahaan ku sharxi doonaa kadibna waxaan gali doonaa insha Allah taala lab bismillah marka hore aan meeshan ku yara sharaxo waxaan haystaa ka soo qaad computer waxaan ku magacaabeynaa host ayaan ku magacaabeynaa host computerkani waxaa ku install gareysan ka soo qaad VMware workstation ee ku install gareysan gudaha VMware workstation-ka waxaan ku haysanaa ka soo qaad VM1 afwan iyo sidoo kale VM2 ayaan ku haysanaa tusaale ahaan hostigan marka ku install gareynay gudihiisa VMware workstation-ka kadibna aan kusii dul install gareynay virtual machine 1 iyo virtual machine 2 hostigan asaga wuxuu leeyahay NIC ayuu leeyahay meeshan ku sawirno NIC waxa ula jeedaa waa faahfaahsan tahay saan rajeynayo waa network interface card marka waa wire waa halka uu kaga xirmo hostiga network wire ahaan tusaale ahaan ka soo qaad inuu ku xiran yahay switch ka soo qaad inuu ku sii xiran yahay switchka waxa ku sii xiriirsan ka soo qaad routerkan wuxuu ku sii xiran yahay ka soo qaad internetka tusaale ahaan markii aan ka hadlayna marka networking-ka VMware workstation-ka waan u yar imaan doonaa waxaan isticmaalaynaa wax loo yaqaano virtual switch waxba isku wareerinin waan ku sharxi doonaa waa maxay virtual switch laakiin hadda halkan iga dhig waan sharxi doonaa sidoo kale computerka hostiga waxaa laga yaabaa in uu leeyahay NIC kale ee wireless-ka waxaan ula jeedaa halka uu kaga xirmo wireless-ka labadan qodob inaan fahanno waa muhiim waxaan leenahay tusaale ahaan hostiga computerka hadda aan meesha ku sawirnay ee hostiga computerkan asaga ka physical ahaan ka computer ahaan sida ugu biiro ama sida ugu xirmo networkska wuxuu haystaa laba option wire ahaan ama wireless ahaan ayuu ugu xirmi karaa haddii kaba soo qaad uu wire ahaan ugu xirmaayo ka soo qaad network halkan ka jiro in uu yahay 192.168.100 tusaale ahaan 24 computerkana maadaama uu yahay mid kamid ah qalabka hostiga ama qalabka ku jiro network 192.168.100 NIC-giisa ama kaarkan oo cable ahaan network ugu biiray inuu ka qaadanayo halkan ka soo qaad IP-ga ah 192.168.100 kaba soo qaad 12 inuu yahay ka soo qaad waa IP-ga computerka hosti aan ka hadlaya ilaa hadda maanan ka hadlin IP addresses-ka computerada virtual machines-ka ee halkan ku haysan wili maanan ka hadlin kan horta aan isla meel dhigno kadibna aan u imaan doonaa virtual machines sidoo kale kaba soo qaad inaan halkan ku haysto router ka soo qaad inaan halkan ku haysto router ku xiran routerka koowaad waa router 1 ayaa meeshan ku haysanaa kana ka soo qaad inuu yahay router 2 sa ujeedid wuxuu ku xiran yahay router 1 router 2 sidoo internet u helo wuxuu laga maarmaan ah inuu trafficada internetka ku socoto uu u diro router 1 laga maarmaan ah sidaan ka arkayno sawirka sidoo kale kaba soo qaad in aan halkan ku haysto router 2 gadaashiis aan ku haysto switchkana aan ku sii haysto kaba soo qaad access point waa wireless antennada wireless marka magac ay bixinayso ka soo qaad in uu yahay Soma ani waxaan sameyn karaa sidoo kale waxaan sameyn karaa computerkan hostiga ah waxaan ku xiri karaa wireless ahaan waxaan ku xiri karaa network Soma ayaan ku xiri karaa wireless kan ama access point-gan ayaan ku xiri karaa hadduu ku xirmo marka hostiga wireless ahaan hadduu access point-gan ku xirmo ee bixinaya magaca Soma waxay noqonaysaa marka inuu hostigan ama computerkan guud ahaan uu ku jiro network kale inuu ku jiro oo wireless ahaan ugu biirsan yahay networkan kale marka uu wireless ahaan ugu biirsan yahay cinwaankiisa waxaa leenahay waa 10.10.10.0/24
waa addresska wirelesska networka labaad. haddii computerkeena ee hostiga hadda inoo ah oo wirelesska ku biiro wuxuu helayaa kasoo qaad IP ah kaba soo qaad waxaan ula jeedaa tusaale ahaan 10.10.10.254 inuu helayo kaba soo qaad IP inuu helayo kasoo qaad waa IP kamid ah networkaas. hadda waxaan baranay laba way oo computerka hostiga uu internetka ugu xirmi karo waa wire ama wireless. network hadda aan meesha kuu sawirana exactly networkan ayaan haystaa oo aan hadda meesha aan joogo ku haystaa waan ku practice gareynaynaa darsigan. haddii aad darsiga hore part 1ka chapter 1 partigiisa koowaad haddii aad soo daawatay topology-gan waan kuu soo sharaxay qaab dhismeedkeeda iyo qaabka u habaysan tahay waa topology-gan laga si kale aan u sharaxay waa isla topology-gi. sidoo kale switch-kan meesha yaala waxaan ku haystaa meeshan computer ayaan ku haystaa. computerkan ku xiran switch-ka waa computerka hadda aniga aan darsiga ka duubayo waxaan u bixinayaa marka hadda computerkan PC1 ayaan u bixinayaa. hostigan hadda aan kala soo hadlayna waa hostiga hadda meesha aan kuu sawiray. hostigaana waxaan u bixinaynaa waa hosti marka hore waxaana siinaynaa magaca ah PC2 aan siinaynaa PC2 aan siinaynaa. hadda aniga waxaan focus ka saarayaa marka waa hostiga PC2 ayaan focus ka saaraynaa kaliya PC1 kan hadda aan haysano ee ku xiran networkan 192.168 ka ah waa midka hadda aan darsiga ka duubayo. kan waxaan u adeegsanaynaa kaliya inaan wax ka duubno darsiga iyo inaan wax sidoo kale aan remote desktop ahaan aan ka galno inagoo isticmaalana computerkan ayaan waxaan galaynaa computerka PC2 ayaan galaynaa sida PC2 shaashadiisa ay horteena u timaado sida marka aan u awoodno inaan PC2 ka faa'iidno resourceskiisa oo aan gudihiisa PC2 gudihiisa aan u abuurno virtual machines. arrimahaas dhan darsiga hore ayaan kaga soo hadlay marka darsigan wuxuu ku xiran yahay darsiga hore. hadda waxaan isleeyahay kaliya inaan overview kaa siiyo haddii lacal videogan uu yahay video ugu hore aad daawanaysid series laakiin waxaan kugu naseexanayaa labada video hore soo daabo sida marka aad darsigan kaga faa'iido. okay hadda waxaan joogaa marka aniga PC1 ayaan joogaa oo midkaan darsiga ka duubaysa u jeedaan shaashadiisa. waxaan tagayaa marka remote desktop application ayaan tagayaa already waa ku jiraa laakiin aan iska cancelo si aan kuu tuso bilowga si aan kuu tuso. remote desktop ayaan furayaa waxaan galayaa marka IP-ga ah 192.168.100.107 ayaan connect leeyahay. dashboard ayaan gelinayaa yes ayaan leenahay. hadda aniga waxaan joogaa PC2 ayaan ku jiraa. sawirka haddaan kusoo laabto sawirka hadda aan sawiraynay haddaan kusoo laabto hadda aniga waxaan joogaa PC1 ayaan joogaa laakiin waxaan PC1 ka galay PC2 ayaan galay oo PC2 desktopkiisa ayaa horteeda yaala. haddaan ku tuso mar kale waa kan PC2 waa PC-gan gudihiisa waxaan ku haysanaa virtual machines badan ayaan ku haysanaa virtual machine 1 iyo virtual machine 2 iyo sidoo kale waxaan haysanaa virtual machine 3 ayaan haysanaa. waxaa marka aan ka hadlaynaa darsigeena hadafku uu yahay networking-ka virtual machineskan ayaan hadda ka hadlaynaa. hadda marka ila fahansantahay ayaan rajeynayaa topology-gan waan usoo laaban doonaa. hadda aan fura marka sabuurad kale aan tagno aan bilowga ka bilowna marka hore waxaan leenahay sidii aan kaga dhex sameyno network between virtual machineska waxaan isticmaalaynaa ka step 1 waxaan isticmaalnaa wax loo yaqaano virtual switch ayaan isticmaalaynaa. virtual switch waan ku sharxi doonaa tusaale waan ka bixinaynaa labna waan ka sameynaynaa. waa maxay marka virtual switch? kaba soo qaad hadda aniga meeshan waxaan ku haystaa VM ayaan ku haystaa waa virtual machine 1 iyo sidoo kale waxaan haystaa ka soo qaad virtual machine 2 ayaan haystaa virtual machine 2. waxaan rabaa kaliya labadan virtual machine inaan ka dhex sameeyo network labadooda kaliya ayaan rabaa inaan network ka dhex sameeyo. maxaa u baahanayaa marka waxaan u baahanayaa inaan iskula xiro labadooda switch. hadda meesha ila eegta marka kan waa virtual machine computer oo hardware ma oo real ma ah kan waa virtual machine. laba virtual machine marka switch-ka ay ku xirmayaan waa switch virtual ah sidoo kale waa v switch ay lagu magacaabaa ama virtual switch. virtual switch-ka marka waa software inaga marka VMware workstation hadda aan practice ku sameynayno
wuxuu leeyahay virtual switches ayuu leeyahay waan arki doonaa hadda practice aan ku sameyn doonaa VMware Workstation-ka marka aad had install gareysay oo darsiga hore kusoo baranay sida loo install gareeyo wuxuu leeyahay virtual switches aad u badan ayuu leeyahay midka doonto ayaa dooran kartaa marka maxaan ula jeedaa marka virtual switches badan ayuu leeyahay maxaan ula jeedaa sidan kaba soo qaad in isla labka aad ku haysato virtual machine 3 iyo sidoo kale inaad haysato virtual machine 4 waxaa rabtaa sidoo kale inaad sameyso network u gaar ah between virtual machine 3 iyo virtual machine 4 labadooda aragtaa network inaad ka dhex sameyso bas meesha samaas kaga fiiri network kood wuxuu u dhaxeeyaa virtual machine 1 iyo virtual machine 2 network labaad wuxuu u dhaxeeyaa between virtual machine 3 iyo virtual machine 4 switcheska marka waxay noqonayaan waa switches kala duwan kan waxaan leenahay switch X ayaan leenahay kan waxaan leenahay switch Y ayaan leenahay waa laba switch oo kala duwan taa darteed ayaan ku dhahay VMware Workstation-ka adiga aad install gareysay gudihiisa waxaa helaysaa virtual switches badan ayaa helaysaa sidii marka adiga mid kasto aad virtual switcheskaas tirada badan aad u doorato mid kamid ah usoo qaadato gaar ahaan soo kasoo qaad midka X iyo midka Y oo kale ee ku jira kamid ah tirada switcheskan badan inaad midka X soo qaadato sida kugu soo rogasho aad u isticmaasho between VM1 iyo VM2 sidoo kale Y-na aad usoo qaadato sida ugu isticmaasho network u dhaxeeya between 3 iyo 4 sidoo kale haddii aad haysato VM5 iyo VM6 oo kale haddii aad haysato aad network rabto inaad ka dhex samayso labadooda keliya waxaa soo qaadanaysaa marka virtual switch kale ayaa soo qaadanaysaa waa hadda waxaan joognaa aniga waa theory ahaan ayaan joognaa lab ahaan u sameyn doonaa haddaan sameyn doonaa laakiin aan waxyaabo qaar ku heshiino kaba soo qaad ina switchkii virtualka soo doortay oo labadan computer aan mid kasta ku soo xiray switchka virtualka kaba soo qaad kana soo qaad switchka virtualka numberkiisa inuu yahay tusaale ahaan number 9 inuu ka soo qaad ileen gudaha virtual VMware Workstation-ka switchkaas wuxuu leeyahay number ayuu leeyahay kaba soo qaad inuu yahay number 5 inuu ka soo qaad tusaale ahaan markii aan labadan computer network ka dhex sameeyo oo labadooda bidariiqatin ma ama way muayyan ah afan karaal noqdo luqadda carabiga hadii ereyada qaar aan carabiga u isticmaalo hadii aadan fahansaneyn ay ku sababayso inaad darsiga waxyaabo qaar fahmi weyso way soo weydii kartaa sidaan kugu sii waadixiyo yani inta badan carabiga waan meeshan jooga laga hadlaa marka taa darteed carabi in badan waan ku hadli doonaa hadii soo dhaxgalaa marka ereyada qaar carabi ahaan aan is iloobo aad fahmi weyso soo weydii insha Allah taala waan kugu sharxi doonaa haduu alla aan ka sii socdo marka virtual machine 1 iyo virtual machine 2 maadaama laba hal switch aan ku wada xirnay sidee isku binki garay karaan marka sidee u wada xiriiri karaan ina waxaan soo baran networking-ka markii qalabka la isku xiro waxaa laga maarmaan ah sidoo kale in la siiyo IP address marka labadan virtual machine waxaan siinaynaa sidoo kale IP ayaan siinaynaa kaba soo qaad network-gooda inaan ka dhignay 172.16.10/24 kaba soo qaad inuu yahay network aan ka dhex sameynayno between virtual machine 1 iyo virtual machine 2 waxaan virtual machine 1 siinaynaa IP ah 172.16.11 virtual machine 2 waxaan siinaynaa IP ah 172.16.12 ayaan siinaynaa markaan laba IP siino oo mid kasta IP u qaato labadoodan ay ku wada xiran yihiin hal switch oo numberkiisu uu yahay number 5 markay ku wada xiran yihiin labadan ping ay isku sameyn karaan aan lab ka sameeyno marka arintan kan aan lab ka sameeyno aan tagayna labka ama VMware Workstation-ka tagayna okay hadda waxaan joogaa aniga computer aan darsiga ka duubayo waa PC1 saa sheegay labiskan kuma isticmaali doono waxaan u baahanahay marka inaan tago computerka PC2 aan desktop ahaan remote desktop ahaan ku galnay waa kan shaashadiisa aan joognaa waxaan sii tagayaa marka VMware ayaan sii tagayaa waxaan hadda practice ku sameynayaa marka waa Windows 10 kan Windows 10 2ga iyo Windows Server labadan ayaan network dhex sameynaynaa Windows 10 3gan hadda ma isticmaalayno yani labada virtual machine oo hadda aan meeshan kugu sharaxay oo aan ku dhahay laba virtual machine aan haysanaa waxay inoo kala yihiin hadda virtual machine 1 waxa inoo matalaya Windows Server ka aan haysto Windows Server kana already waan install gareeyay ka virtual machine ahaan ayaan ku install gareeyay steps kale lagu install gareeyna wuxuu la mid yahay kii aan ku soo baranay Windows 10 waa isku mid
sidoo kale virtual machine 2gana waxaa inoo matala win10-2 waa windows 10 oo numberkiisu yahay 2 ay inoo matala waa windows server iyo windows 10 ayaan network dhex sameynaynaa waxaan isticmaalaynaa virtual switch ayaan isticmaalaynaa aan ku laabto marka labka aan tago marka windows 10 2ga aan daarno kan uu daaran yahay aan gudihiisa galo sidoo kale windows serverkan aan sii diyaariyo aan kilo ku siiyo shaashadiisa kadibna aan tagno meeshaan password aan geliyo okay meesha waxaan ku haystaa laba virtual machine windows server 1 iyo 10 2 labadana network dhex sameynaya marka bismillah aan bilaawno marka waxaa sameynaysaa sidatan marka hore waxaad dul istaagaysaa windows server ay dul istaagaysaa halkan magaca ku qoran ayaa kilo ku siinaysaa waxaad tagaysaa settings aad tagaysaa settingskan sidoo kale waxaa kasii tagi kartaa halkan adigoona right kilo ku siin oo settings tagin waxaad dooranaysaa virtual machine aad rabto inaad configuration ku sameyso markuu kuu dooran yahay shaashadiisa sidaan kugu soo muuqato waxaad tagaysaa halka ku qoran tahay VM settings halkan waa ka aadi kartaa labada meel midka doonto waa kasoo aadi kartaa marka dadaan kan ka tago aan dhaho settings waxaa ii soo baxay shaashadan la shaashadan sidoo kale waxay iga soo bixi kartaa anoo tagay meeshan VM oo tagay kadib settings aan gaabsado marka shaashadan haddii suuragelayso okay halkan tagna marka meesha maxaan ka sameynaynaa waxaan tagaynaa halka ay ku qoran tahay network adapter waa haddaa ila fahamsan tahay waa halka waa kaarka networking-ka ee windows serverka aan kilo ku siinaya waxaan tagayaa halka ay ku qoran tahay marka custom specific virtual network macnaheedu waxay tahay waa virtual switch ayaan tagayaa waxaan furayaa marka qaanadan markaan furo waxaa ii soo baxaya marka networks aad u badan waa switchka 17aad switchka 16aad switchka 15aad hadda aniga example-keen waxaan soo qaadanay switchka 5aad ayaan soo qaadanay number 5 ayaan dooranaya VM virtual machine network ee laga soo gaabiyay VMnet numberka soo kamid ah numberadan wuxuu ku matalaa switch ayuu ku matalaa haddii hadda aniga aan number 5 doortay windows serverka aan okay dhaho windows 10ka aan rabo inuu ku network noqdo windows serverka sidoo kale waxaan click ayaan ku siinayaa settingska ayaan tagayaa asagana waxaan ku xirayaa network adapterkiisa custom ayaan leeyahay waxaan ku xirayaa number 5 ayaan ku xirayaa hadda sidaan waxaan kaga dhigay windows serverka iyo windows 10ka waxay ku wada jiraan hal network ay ku wada jiraan labkaas u dhamaystirno aan siina mid kasta marka addresska aan ku soo heshiin aan gala marka windows serverka ayaan ku jiraa shaashada haddaan iska weyneeyo windows serverka ayaan ku jiraa haddaan kilo ku siiyay meeshan oo aan dhaho open network sharing center oo aan sii tago ethernet haddaan sii tago oo adapterka aan sii tago kadib aan meeshan dhaho properties waxaan siinaya address ayaan siinayaa oo aan dhaho marka addresska waxaa qaadataa 172.16.11 tusaale ahaan subnet maskigana 255 aan ka dhigo waa /16 oo asal ahaan waa ku dii karnaa /24 waan ka dhigi karnaa aan okay dhaho close aan dhaho hadda marka kan windows kan serverka waxaan siinay IP aan siinay waa 172.16.11 aan ku laabto marka windows 10 kan aan ku laabto waa windows 10 2 aan ku laabto waa kan shaashada daan weyneeyo marka waxaan leenahay sidatan waxaan tagayaa marka kaarka halka laga sii IP ayaan tagayaa waxaan tagaynaa halka qoranta ethernet change adapter option kaarkiisa marka ethernetka hadaan double click ku siiyo aan properties ka tago oo aan TCP version 4 ka tago oo halkan aan siiyo marka aan dhaho fadlan adigana waxaa qaadataa 172.16.1 haddii aan tusaale ka soo qaad 10 qaado ama 2 sida aan tusaale ku soo wadin 2 aan siino subnet masking aan ka dhigo 3 mar 255 aan okay dhaho kadib aan okay dhaho kadib aan close lahaan haddii hadda aan furo marka CMD-ga ee computerka Windows 10 hadda ku jira waa Windows 10 2ga waa virtual machine waxa hadda ku jiro sida ugu wareerin aan shaashada ku soo kaabisa u gaato meesha aan joogo hadda waxaan ku jira aniga Windows 10 2 ayaan ku jira waxaan furayaa marka CMD-giisa ayaan furayaa marka CMD-ga furo haddaan yaro weyneyno haddaan waadax kaga dhigno haddaan tago fontiga aan bold ka dhigo aan 10 ama 20 haddaan ka dhigo haddaan dhaho marka ib config /all haddaan dhahno waxa inoo soo baxaysa marka in computer aan ku jirno ib-giisa in uu yahay 172.16.12 isla shaashada marka TLS aan iska dhaho
aan bing ku sameynaya marka 172.16.11 172.16.11 waa Windows server hada enter dhaho waxa arkaysaa marka bing isku sameeyeen way is arki karaa marka waayo hal switch aan ku wada xirnay hadaan binkiga marka aan ka dhigo continuous bing hadaan ka dhigo aan istaageenin dash t aan ku xijinayaa bing uu iska soconaya ilaa inaga aan ka istaajino waxa ula dalnaya marka arintan inaan arintaas gareeno waxaan tagaynaa Windows 10 ki ayaan tagayaa virtual machine asagoo hadda soo jeedid binkigu uu socdaa way is arki karaan laakiin waxaan bedelayaa Windows 10 ka switch uu ku xiran yahay ayaan ka dhigayaa switch aan la mid ahayn switch ka Windows server uu ku xiran yahay marka taa waxay noqonaysaa marka in Windows 10 aan gelinay network kale Windows server kan uu ku jiro network kale ilaa laba switch oo kala duwan ay ku kala xiran yihiin taa darteed binkigu istaagaya marka aan tijaabin arintaas aan tago VM settings aan tago kadib aan tago VM netka 5 ayuu inoo ahaa aan ka dhigo 6 tusaale ahaan aan okay dhaho kadibna waxa arkaysaa marka inuu istaagay binkiga hadaan ku soo celiyo aan dhaho VM settings aan dhaho walaalo naga raali noqo aan VM netka tago aan 5 ka dhigo halkan aan okay dhaho waxa arkaysaa hadda in binkiga soo laabanaya marka wax yar kadib waxa arkaynaa marka in reachability-ga ay inoo soo laabanayso hadda waxaan yara sugaynaa kali intuu ka yara baranayo network ku xiran yahay hadduu ku xiran yahay aad u jeedid binkigan uu inoo soo laabtay uu shaqeynaya marka binkiga waxaan isleeyahay marka hadda aan istaajiyo control C ayaan leeyahay si uu istaajiyo waxaan soo laabayaa marka shaashada computerka PC2 waxaan hadda soo galay PC1 oo darsiga aan ka duubayo mainka inoo ah oo duubista kaliya aan u isticmaalin darsigan ayaan soo galay hadda hadaan sabuurada wada tagna marka waxa hadda marka practice ku sameynay labkani waxaan leenahay hadaan ku sii biiriyo darsiga hore lab 6 ayaan joognay waxaan tagaynaa marka hadda waxaan leenahay ama aan furto paint cusub oo joognaa afwan hadda labkani waxaan ka dhigaynaa marka waa lab 1 ayaan ka dhigaynaa lab 1 waan sameynay lab 1 waxaan baranay marka lab 1 waxaan sameynay sida tan ama aan dhahno lab 7 aan dhahno darsiga hore ayuu la socdaa ileen lab 7 waxaan sameynay connection waxaan ka dhex sameynay between VMnet 1 and VMnet 2 ayaan hal network wada gelinay inagoo isticmaalayna marka waxa loo yaqaano virtual switch ayaan isticmaalnay marka waa lab 7 lab 8 aan imaana marka lab 8 intaan marka guda galin hadafka aan ka leeyahay waxa weeyaan aan ku sharaxo marka hore hadafka aan ka leeyahay kaba soo qaad aniga meesha waxaan ku haystaa computerkan waxaa ii dhahdaa waa host waa midka host gareynaya VM-ka waxaan gudihiisa ku haystaa computerkan VM1 iyo sidoo kale waxaan ku haystaa VM2 ayaan ku haystaa computerka hadda aan sharaxayo aan leeyahay waa host waa midka aan labka ku haysano waa PC2 taas sida u faham PC2 ayaan haysanaa ilaan PC2 gudihiisa ay inoogu jiraan VM1 iyo VM2 PC2 network sidoo ugu biiraya marka network real ayaan ula jeedaa network real wuxuu ugu biiri karaa laba siyaabood through wire iyo through wireless hadda aan tastigareynaba kaliya aan tagno PC2 aan aragna marka labada network uu ku kala biirsan yahay through wire iyo through wireless aan furo marka remote desktop shaashada aan ku jirno ee PC2 aan soo gaabiyo VMware workstation-ka hadda shaashadani waa shaashada PC2 haddaan tagna marka network interface kaarkiisa haddaan furno oo aan tago ethernet oo aan adapter settings tago waxa halka meeshan ka arkaynaa in uu ku xiran yahay wireless ahaan wuxuu ku xiran yahay SOMA ayuu ku xiran yahay access point-iga SOMA ayuu ku xiran yahay wire ahaanna sidoo kale wuxuu ku xiran yahay switch-kii oo network wire-ka uu ka qaatay waa network isfaans kaga fiiri wire ahaan wuxuu qaatay 192.168.100.107 ayuu qaatay waa wire ahaan wireless ahaanna muxuu qaatay 10.10.10.253 ayuu qaatay hadaan ku soo laabto marka meeshan hadaan ku soo laabto sawir hadda kor aan meeshan ku haysanay waa sawirkan hadaan ku soo qaadano waxaan tiraynaa kaliya IP aan tiraynaa 254 ma aha hadda si hadda aragnay waa 253y IP uu qaatay marka hadafkaygu muxuu yahay marka darsigan labkan hadafkaygu wuxuu yahay sida tan waxaan rabaa in virtual machine-ka koowaad waa Windows 10 waxa inoo matala virtual machine 1 waa Win 10 ay ii matala Windows 10 2 Windows 10 2 waxaan rabaa
inuu ku xirmo wirelesskan oo macnaheedu maxay tahay marka meeshan waa muhiim si fiican iskaga fiiri waxaan rabaa virtual machine 1ka ee Windows 10ka ah inuu noqdo kaana inuu yahay computer ku jira networkan gudaha ee networkan Soma ku jira inuu yahay ayaan rabaa inuu noqdo maxaan sameynayaa marka taa marka waa fikradda koowaad fikradda labaad waxay tahay waxaan rabaa sidoo kale virtual machine-ka 2ga ee Windows server-ka ah waxaan rabaa sidoo kale asaga inuu noqdo kaana inuu yahay computer ku xiran si toos ugu xiran networka 192.168.10ka labada arrin aan kuu sheegay theory ahaan aan kugu sii waadixiyay marka waxa ay yihiin iyo waxa laga loo scenario-gana haysanaa waxaan haysanaa virtual machine 1 iyo virtual machine 2 waxaan rabnaa labada virtual machine ee hostigan ku jira in ay noqdaan virtual machine computer si caadi ugu rakiban wirelesska iyo computer si caadi ugu rakiban networka wireka ayaan rabnaa conceptiga ma kala joogo networking ama virtualka ma kala joogo waxaa loo yaqaanaa wax la dhaho bridge ayaa la dhahaa bridge ayaa waxa adiga sameynaysaa bridge waxaad ka sameynaysaa between smac iskaga fiir meeshan waxaa bridge ka dhex sameynaysaa between switchka virtualka waa v switchka waxaa meeshan ku haysanaa v switch ee meeshan ku haystaa ileen virtual machine-ka wuxuu ku xirmayaa keliya oo ku xirmi karaa keliya waa virtual switch ayuu ku xirmi karaa si fiican iskaga fiir virtual machines aan ku haysto aniga VMware workstation-ka keliya waxay ku xirmi karaan virtual switch ay ku xirmi karaan aniga waxa u baahan marka virtual switch-kan tusaale ahaan ka soo qaad inuu yahay virtual switch 1 inuu yahay ka soo qaad tusaale ahaan inaan qaado oo aan dhaho virtual switch waxaan ka rabaa inaad bridge gareyso aad ku xiranto si toos ah ugu xiranto kaarka NIC-ga wire-ka tusaale ahaan taa marka maxay noqonaysaa marka waxay la mid noqonaysaa kaana in virtual machine-kan oo si toos ugu xiran yahay networka wire-ka aan haysto si lamid ah waxaan sameyn karaa waan leeyahay tusaale ahaan waxaan ka codsanayaa virtual switch waxaan leeyahay virtual switch fadlan waxaa bridge gareysa oo ku xirantaa si toos ugu xirantaa kaarka wirelesska ayaan leeyahay arrintan marka waxaa loo yaqaanaa bridge ayaa loo yaqaanaa haddaad bridge sameyso waxaa leedahay laba option waxaa ku xiri kartaa virtual switchka wireless waa ku xiri kartaa wire-kana waa ku xiri kartaa sidee doonta ha noqoto haddii aad midkood ku xirto tusaale ahaan haddaan ku xiro virtual switchka wireless haddaan ku xiro kadibna virtual switchkan any virtual machine ku sii xiran kaana virtual machineskan ee virtual switch 1 ku xiran waxay noqonayaan kaana inay si toos ugu xiran yihiin wirelesska kadib haddii wirelesskan uu internet haystay oo internet ku xirnaa virtual switchkan internet ayuu aadi karaa marka ileen topology-ga mainka haddaan ku laabto wireless network iyo network wire labadoodaba waxay ku xiran yihiin bidariiqatin ma way mucayana waxay ku xiran yihiin internet ay ku xiran yihiin laabkan marka aan sameyno aan laab gareyno inta marka laab gareynin aan scenario qaadano aan practice ku sameyno marka scenario waxaan leenahay marka sidatan hadafkeena muxuu yahay waa lab 8 ayaan galeyna lab 8 waxaan rabnaa inaan sameyno connection inaan ka dhex sameyno ama bridge inaan ka dhex sameyno between virtual switchka loo yaqaano oo numberkiisu uu yahay 1 waxaan kaga fiiri virtual switchka numberkiisu uu yahay 1 aan waxaan bridge ka dhex sameynaa iyo wirelesska ayaan bridge gareynayaa network wireless waa hadafka guud ee labka 8 lab 8 sidaan u sameyno labkani waxaan u baahanaa stepska inaan raacno step 1 waxaa u baahan tahay inaan abuurto horta create bridge between virtual switch 1 and wireless labadooda horta bridge ka dhex sameey marka bridge ka dhex sameyso kadib waxay u soo laabanaysaa step 2 ay imaanaysaa step 2 wuxuu ku noqonayaa connect your virtual machine kaaga waxaa ku xirtaa to the v switch 1 ku xir ilaan
oo markasta midan qaacidadan iska qaado markasta virtual machine-ka wuxuu la tacaamulaa asaga virtual switch ayuu la tacaamulaa virtual switch 1 ayaan waxaan ku xiraynaa stepka koowaad virtual switch 1 iyo wireless network realka ah ayaan bridge ka dhex sameynayna kadib VM-kaagi waxaa ku xiraysaa virtual switch 1 VM-kaagi wuxuu noqonayaa marka kaan inuu wireless si toos ugu xiran yahay waa intaas inta ka hadlaya marka aan gala marka laabkan bismillah aan bisin u qabano waxaan tagaynaa remote desktopkii aan ku jirnay PC2 ayaan galay hadda PC2 ayaan joogaa waa kan PC2 ayaan sidan ku joognaa aan furo marka VMware aan furo step koowaad waa create bridge between VM1 iyo sidoo kale wireless waxaad tagaysaa halkan edit ayaa tagaysaa waxaad tagaysaa virtual network editor ayaa tagaysaa kadib waxaad change settings waa inaad dhahdaa waa daruuri change settings ayaad klik ku siinaysaa yes ayaa leedahay waxaa ii soo baxaya marka halkan VM0 iyo VM1 iyo VM8 dhib ma lahan saddexdan sababtay usoo baxeen ay usoo bixi waayeen VM10 iyo 20 iyo 17 iyo VMska kale ama switcheska kale sidii sababtay usoo bixi waayeen dib aan kaaga sharxi doonaa laakiin hadda kali macnaha ila soco hadafkan wuxuu ahaa inaan VM1 aan ku xirno wirelesska VMnet1 ayaad kali ku siinaysaa markaad kali ku siiso waxaad dooranaysaa bridge-ka halkay ku qoran tahay ayaad kali ku siinaysaa halkan ayaad kali ku siinaysaa kadib waa furaysaa qaanadan waxaa ka dooranaysaa marka kaarka wirelesska kaarka hadda wirelesskayga magaciisa waa Intel R Ethernet connection ayaad kali ku siinaysaa halkan markaad doorato aad kaarka wirelesska doorato kadib waxaad leedahay okay ayaa leedahay hadda waxaa laga inaad weydiinayso su'aalaha macalin haddii aniga aan rabo inaan ku bridge gareeyo NIC-ga ee realka ah halkan igama muuqdo hadda aniga waxaan ula jeedaa NIC-ga wireka ayaan ula jeedaa halkan igama muuqdo aan yes dhaho aan u tago VMnet1ka haddaan marka meeshaan furo igama muuqdo kaarka wirelesska ethernetka caadiga ah meeshaan kama muuqdo sababtana dib ayaan kaaga sheegi doonaa tamam dib ayaan kaaga sheegi doonaa laakiin dhib ma lahan aan yara ogaano okay aan dhaho kadibna aan dhaho okay ayaan dhaho marka okay dhahay hadda waxaan sameeyey waa step koowaad VM1 iyo waxaan connection ka dhex sameeyey ama bridge ka dhex sameeyey wirelesska kaarka wirelesska computerka marka ee PC2ga waxaa laga maarmaan ah inuu asaga wirelesska ku xiran yahay haduusan wirelesska daarnayn bridge-ka aad samaysay wax kama jiraan wirelesska waa active hadda kali ku siiyo wirelesskani wuxuu ku biirsan yahay networka 10 ayuu ku biirsan yahay hadaan sawir ahaan kuwa xasuusiyo waa networka computerka hostiga wuxuu ku xiriirsan yahay access point-gan ayuu wireless ahaan ugu xiriirsan yahay wireless Soma wuxuuna IP ka qaatay halkan hadda marka VM1 waxaan rabnaa inuu noqdo mid ku xiran si toos ugu xiran networkan oo IP-dan ka qaato networka 10 ayaan rabnaa hadafkeenu guud waa sidaas aan ku laabto marka hadda wuxuu qaatay computerka hostiga 10.10.10.253 ayuu qaatay stepka labaad waxaan sameynayaa marka sidatan aan ku laabto marka VMware-kii virtual machine-ka waxaa hadda inoo matalaya marka waa Windows 10-ka Windows 10 hadda joognaa waxaan tagayaa marka VM settings ayaan tagayaa waxaan tagayaa marka hadda network adapterka waxaan ku xirayaa marka VM1 ayaan ku xirayaa marka waayo VM1 waa midka aan ku bridge gareynay network realka ah ee wirelesska okay ayaan leeyahay marka okay dhaho waxaan tagayaa marka network adapter settingska ee Windows 10 ayaan tagayaa waxaan leeyahay fadlan Windows 10 oo IP-ga ku qaado through DHCP ku qaado ayaan leeyahay DHCP ahaan ku qaado DNS-kana DHCP ahaan ku qaado ayaan leeyahay okay ayaan leeyahay kadib okay ayaan leeyahay waan yara sugaynaa marka wax yar kadib waxaan arkaynaa in virtual machine-kan uu IP ka qaadanayo networka Soma ee network 10-ka ah yara sugno yara sugaynaa aan double click ku siiyo aan qaadan aan ku sameeyo disable tusaale ahaan kadibna shido haddii jira marka wax naga qaldan waan baari doonaa laakiin waan yara sugaynaa
ilaa hadda waa stepeska waa inoo saxsan yihiin. okay dhib malaha aan markale ku laabto. waxaan leeyahay VM ayaan tagayaa settings. waxaan iska hubinayaa marka hore in uu igu xiran yahay VMnet1 inuu igu xiran yahay ayaan marka hore iska hubinayaa. waxaan leeyahay waa okay, taa waan saxnay. aan ku laabto haddana sidoo kale stepka koowaad aan hubiyo, virtual network editorka aan tagno, aan dhaho marka change settings aan dhaho. halka marka arrin yar ay jirta. okay had u jeedi marka VMnet1 inaga waan qaladnay bridge-ki maanan ku sameynin wireless-ki maanan ku sameynin, wax kale aan ku sameynay wifi direct wax la dhaho ma aha. waan ka bedelayaa. waxaan leeyahay marka Intel R Ethernet connection waa midkan wireless kan ayaan dooranayaa, apply ayaan leeyahay. mid qaldan ayuu ku xirnaa, aan ku bridge gareynay network qaldan. haddaan refresh dhaho oo aan sugno wax yar oo qaatay IP gu qaatay, haddaan double click ku siiyo aan details dhaho, waxaad IP ka qaatay 192.168 tan aniga uma rabo inuu ka qaato, waxaan rabaa inuu ka qaato 10ka. sidoo kale aan bedelno VMnet1ki wuxuu ku xiran yahay okay. aan taga sidoo kale aan ku sameeyo disable, enable gareeyo mar kale. aan dhaho marka details. had wuxuu ka qaatay network 10 ayuu ka qaatay. network 10 inuu ka qaatana ma rabo. aan marka yara saxo hadda meeshaan aan tagayaa sidoo kale virtual editorka aan tago, kadib change settings taga meeshaan arrin yar ayaan bedeli doonaa. halkan aan bridge ku qoray hoosta iga dhig, dhima lahan. hadda waxaan aan sameeyey iska ilow, dib ayaan kaaga sharxi doonaa waxaad aan sameeyey. aan marka dhaho disable aan dhaho, enable gareeya marka mar kale. aan double click ku siiyo meeshaan details aan dhahno okay. still wuxuu ka qaadanayaa editorka. okay hal arrin ayaan sameynayna marka, hal arrin ayaan sameynayna. arrinta aan sameynayna waa seetan. waxaan tagayaa marka hadda editorka, markii aan tago change markaan dhaho yes, markii aan dhaho meeshaan waxaan leeyahay restore defaults. restore defaults sida u dhahno wuxuu u baahan yahay inaan demino virtual machineski, inaan demino ayuu u baahan yahay. okay taa marka taa u sameyno aan sameynayaa marka sida tan virtual machinekan waan deminaynaa, shutdown ayaan leenahay. kana sidoo kale resume aan dhaho, kan aan demiyo sidoo kale. dib ayaan kasoo bilaabeynaa. shutdown wuu dansan yahay. kan waan deminaynaa sidoo kale, waxaan leenahay shutdown. okay hadda marka machinesku ay dansan yihiin kan yar sugeynaa. waxaan sameynayaa marka editorka ayaan tagayaa, waa meeshaan. waxaan ku celinayaa marka defaultigi waxyaabihii aniga aan laabiska aan hore u sameeyey iyo waxyaabihii aan ka bedelo dhan ayaan dib u celinaynaa. restore ayaan leenahay, defaulti aan ku celinaynaa siduu asal ahaan yahay. marka sidaan sameyno okay yara sugno. waana muhiim inaan aragno cilada naga hor imaanayo, ilaan networking oo dhan waa cilad bixin iyo wax sameyn. marka insha Allah taala waxaan rajeynayaa marka inaan stepskana aan ka faa'iidi doono hadba leed. hadda waxaan ku restore gareeyay defaultigi aan kusoo celiyay. kaan waxay tahay in qaybta networkingka VMware workstation kan uu yahay oo ku laabtay sidii markii aan ku install gareeyay computerka waa PC2 dib aan u celiyay. aan hadda tagna marka hadda waxaan daarayaa marka Windows 10 ayaan daarayaa. intuu ii daarmaya marka stepeski ayaan soo sameynaynaa. marka stepka koowaad muxuu inuu ahaa inaan tagno editorka oo aan bridge ka dhex sameeyo between, haddaan change settings dhaho waxaan bridge ka dhex sameynayaa between VMnet1 iyo sidoo kale okay haddaan kan dhaho host only haddaan ka dhigo okay ayaan leenahay. okay haddaan taga marka VMnet1ka aan bridge ka dhigo, bridge kana hadda saa u jeedo waxaa hadda ii soo baxay bridge waxa ii banaan
oo hadda qaybtan isoo baxay waxaan dooran karaa ethernet connectionka waa intel arcan ethernet connectionka cafwan aniga waxbaan isku qalday waxaan isku qalday waxay ahayd magaca wireless aan isku qalday oo magaca wirelesska kaarka wirelesska waa dual band wireless intel ethernet kaaneeto waa wireka waan ka xumaa taas inay dhacday waayo dual wireless wuu inaga qarsanaa laakiin hadda dhib ma lahan waan restore gareynay oo default aan kusoo celinay dhib ma lahan labadood way inoo soo baxeen hadda waxaan rabnaa marka scenario aan ku laabano hadda waan practice garey karnaa scenario-geena wuxuu ahaa in aan virtual switch one aan ku bridge gareeyo wirelesska intaas ayuu ahaa aan ku laabto hadda waan samayn karnaa aan taga marka dual band wirelesska macnaheedu waxay tahay vmnet 1 wuxuu ku bridge gareysan yahay wirelesska apply aan dhaho kadibna aan dhaho okay aan furno marka computerkii sidoo kale stepka labaad aan sii dhamaystirno intuu ka furmayo computerka stepka labaad wuxuu ahaa inaan tago settingska oo aan computerka network adapterkiisa aan ku xiro vmnet 1 inoogu xiran yahay labadiis hadda waan dhameynay ay ka dhigan tahay maadaama labada step aan qaadnay aan sameyno marka sidatan testi aan sameyno computerkani aan galno marka settingskiisa ethernetka aan tago change adapter optionka aan tago kadibna aan dul tagno halkan disable aan dhaho marka hore properties aan iskaga hubiyo inuu DHCP daaran yahay oo ii dooran yahay kadib waxaan leeyahay marka enable ayaan leeyahay kadibna waxaan leeyahay enable waan active gareynayaa sida marka uu u qaato hadda markuu qaatay AB ayuu qaatay AB marka waxaan rabaa inuu ka qaato wirelesska Soma ilan wirelesska ayaan ku bridge gareynay wirelesska networkiisana waa 10 aan double click ku siiyo details aan dhahno ujeeda marka computerka wuxuu AB ka qaatay networka 10 ayuu ka qaatay computerka ka hadlay marka waa virtual machine-kan waa Windows 10 ka haddaan tago cmd-ga virtual machine-ga cmd-ga haddaan furo aan dhaho ab config /all haddaan dhahno waxaa arkaynaa ab uu qaatay inuu yahay 10.10.10.25 wuxuu binki garey karaa marka internet si toos ayuu aadi karaa saad u jeedno waayo waxaad aan sameynay waa sidatan haddaan ku yar dul maro waxaan sameynay sidatan virtual machine-kii 1 oo Windows 10 ka ah waxaan ku bridge gareynay waxaan ku xirnay wireless network wuxuu IP ka qaata marka networkan kaana wuxuu hadda yahay virtual machine kan kaana inuu yahay computer meeshan yaala laakiin real ahaan waa virtual machine ku dhex jiro hostiga waxaan ku bridge gareynay marka virtual switch aan ku xirnay waa virtual switch 1 waxaan virtual switch 1 ku bridge gareeyay wireless هذا في مكان حو أي بي كقات مركا نتوجا 10 أي كقات virtual machine كمكان هذا إنترنت وآدي كرا وايو وحال كان كويسة أنيجا روتر يعني كويسة روتر كان روح كسحرين هي روتر كله كديم إنترنت أي كسحرين مركا virtual machine كان سو إنترنت وآدي مركا جيت ويجيس أيو الحريرية أو روتر كان جيت ويجيس ولا سحرية روتر كان كله كديم روح آدي أساس إنترنت هذا يروح بيننا مركا لا هذا نقول مركا ماشان أنت ويندوز 10 كذا أنتجو waxaa arkaynaa Windows 10 gateway-giisa ah default gateway-giisa hadaan wada eegno default gateway-giisa waa 10.10.10.1 waa routerka uu ku xiran yahay enter hadaan dhaho marka bing hadaan dhaho google.com sidoo kale wuu shaqeynayaa sidoo waxaan gali karnaa website-ka waxaan ka gali karnaa marka halkan hadaan dhaho google.com waa marka ugu horeyso aan galo meeshan hadda aan install gareynay waxaan leenahay stay continue without this data okay hadaan galno markaan qorno meeshan google.com aan dhahno waxaa marka inoo furmaya marka website-ka google ayaan sidaan ku gali karnaa waa hadda bink aan ku sameynay bink ahaan aan u galno marka as website ahaan aan www.google.com maadaama binki hadda uu inoo shaqeeyay kan uu inoo shaqeynaya aan baarno marka hadda meeshan aan dhahno VMware aan ku qorno
sida waxaan internet ku siinay virtual machine internet ayaan ku siinay. Okay, labka marka wuxuu ahaa lab aad iyo aad u muhiimsan, akhdaar badan ayaan waajahnay oo aniga qaarkood aan u sabab ahaa. waxaan kaloo baranay sida loo restore gareeyo settingska networking ee barnaamijka VMware Workstation kan waan baranay. aan gudagalna marka labkan aan ka sameeyno. labkan wuu inoo dhamaaday, waa lab 8. waxaan galayaa marka lab 9 ayaan galaynaa marka. lab 9 hadafkaygu wuxuu uu yahay sida tan. waxaan rabaa inaan bridge ka dhex sameeyo between virtual switchka lagu magacaabo 0 numberkiis uu yahay 0 iyo sidoo kale waxaan bridge ka dhex sameynayaa aan network wireka. hadafkaygana wuxuu yahay marka lab 9 wuxuu yahay hadafkaygu wuxuu yahay waxa xasuustaan inaan haysto virtual machine-ka labaad oo ii matalo Windows Server. Windows Server wuxuu ii matalayaa virtual machine-ka labaad ayuu ii matalayaa. waxaan rabaa marka hadafkaygu uu yahay Windows Server-ka in aan ku bridge gareeyo network wireka. network wireka sa ognahay IP ay leeyihiin oo u gaar ah oo ah 192.168.100. kaana waxaan rabaa virtual machine-kan labaad ee Windows Server-ka kaana inuu noqdo computer si toos ugu xiran network 192.168.100 oo sida internet ku galo ayaan rabaa. data u sameeyna marka waxaan sameynaynaa waxaan bridge ka dhex sameynayaa marka virtual switchka 0 iyo network wireka. aan galna marka waxaan tagayaa marka PC2 ayaan galnay. aan tagaynaa tabka koowaad edit ayaan tagaynaa, virtual network editor ayaan tagaynaa, change settings ayaan leenahay, yes ayaan leenahay. waxaan tagayaa marka VM0 waan haystaa. waxaan tagayaa marka bridge ayaan tagayaa. VM0 marka waa la dooranaysaa VM0 kadib waxaad tagaysaa bridge waa furaysaa halkan. hadda sa ujeeda marka meeshan waxaa iga qarsamay marka waxaa iga qarsamay wirelesska uu iga qarsan yahay. waayo wirelesska waxaa ku bridge gareynay VMnet 1. haddii hal switch aa ku bridge gareyso wirelesska, switch labaad kuma bridge garey kartid isla wirelesska. waxaa lagu ogol yahay halkii networkba, waxaan ula jeedaa network wirelesska waxaa ku bridge garey kartaa only single switch. hadda maadaama switchka koowaad ee VMnet 1 aan ku bridge gareyno wirelesski, switchka 0 waxaan ku bridge garey karnaa kaliya wireka waa Intel Arca. maadaama waa mid aan qabdo magacan uu iga yaro hoos baxay. marka waxaan leenahay okay ayaan leenahay. kaana waxay ka dhigan tahay meeshan marka in VMnet 0 aan ku bridge gareeyay wireka caadiga. waxaan leenahay marka apply kadibna waxaan leenahay okay ayaan leenahay. waa stepka koowaad. stepka labaad Windows Server ayaan tagayaa, waan daarayaa. intuu ka daarmaya marka sidoo kale waxaan sameeyaa marka VM-ka ayaan tagayaa, settingskiisa ayaan tagayaa, waxaan tagayaa network adapterkiisa. hadda wuxuu ku xiran yahay switchka 5 ayuu ku xiran yahay. waxaan ku xirayaa marka VMnet 0 ayaan ku xirayaa. VMnet 0 sidoo kale waxaad ugu xiri kartaa way kale oo ah waxaad dhigi kartaa bridge ayaa dhigi kartaa, halkan ayaad dooran kartaa. bridge-ka macnaheedu waxay ka dhigan tahay waa VMnet 0 ayay matashaa. kadib waxaad leedahay replicate ayaa leedahay, labadan kheyr ayaa dooranaysaa. VMnet 0 bas ay u gaartay hadda arrinta ayaan sameynayo, iska fiiri. kadib waxaad leedahay okay ayaa leedahay. hadda waxaan tagaynaa marka waxaan galaynaa marka Windows Server ayaan galaynaa. password aan geliyo. okay hadda Windows Server ayaan ku jiraa. waxaan tagayaa marka haddaan soo gaabiyo halkan waxaan tagayaa marka kaarkiisa halka laga sii IP-ga. waxaan tagaynaa Ethernet, waxaan tagaynaa adapter option. way kalena aan ku sii karno way jirtaa anigoo isticmaalna server manager-kan waan ka sii karnaa. laakiin hadda meesha aan ka siino double click aan leeyahay, properties ayaan tagayaa. waxaan tagayaa TCP/IP version 4. waxaan leeyahay cinwaanka waxaa ku qaadataa through ku qaado DHCP automatic ku qaado ayaan leeyahay addresskaaga. okay ayaan leeyahay. waxaan sugaynaa. waxaan rabnaa marka inaga inuu ku xirmo Windows Server-ka network 192.168.100 inuu ku xirmo ayaan rabnaa. haddaan double click ku siiyo oo aan hubiyo IP-giisa, saa u jeedo marka IP-gu qaatay waa 192.168.100 112 ayuu qaatay. haddii aan CMD-giisa galo, CMD-giisa haddii aan galo aan yaro weyneyno CMD-ga properties-ka haddaan galno fontiga 18 ka dhig, bold ka dhig. okay hadda halkan ku qorno ipconfig/all haddii aan dhahno sidoo kale waxaan arkaynaa inuu qaatay IP-ga waa 192.168.110.
100 ayuu qaatay TLS haddaan dhahno aan binka ku sameyno 888 waa Google DNS-ka uu shaqeynaya binkiga sidoo kale haddaan binka ku sameeyo google.com sidoo kale uu shaqeynaya marka macnaheedu waxay tahay Windows serverkan internet ayuu ku xiran yahay laakiin Windows server sidee internet ugu xiran tahay aan ku laabana marka topology-ga hore mainkiina waa meeshan waxaan arkaynaa iska tirno arrimahan waxaan sameynay sidatan waxaan sameynay virtual machine kan koowaad waa Windows 10ki waxaan ku bridge gareynay wireless network virtual machine 2 waxaan ku bridge gareynay network 192.168 boqolka ah virtual machine 2 ee Windows serverka wuxuu internet ka helayaa through network 192.168 boqol virtual machine 1 wuxuu internet ka helayaa through 10.10.10 ayuu ka helayaa sidee u suura gashay marka arrintaas waxay u suura gashay in hostigareeyay ee marti qaaday virtual machine 1 iyo virtual machine 2 in hostigan uu asaga connection la leeyahay labada network hostiga wuxuu ku xiran yahay network wirekan uu ku xiran yahay network wirelesskan uu ku xiran yahay sidoo kale waxaad ka fiirisaa meeshan hostiga waa computerka caadiga waa PC2 hadda inoo matala hostiga aniga aan ka hadlayo wuxuu ku xiran yahay wireka uu ku xiran yahay IP-ga uu ka qaatay iska fiiri waa 192.168 boqol 12 ayuu ka qaatay sidoo kale virtual machine kan 2ga ee Windows serverka markaan ku bridge gareynay 192.168 boqolka network ah wuxuu qaatay virtual machine kan IP aanan ahayn IP-ga hostiga uu haysto kaana virtual machine wuxuu noqday computer dhex yaala networkan si gooni u dhex yaala aan yar eegno aan tago hadda computerka PC2 ayaan joogaa aan tago marka kaarkiisa networka haddaan meeshaan furno waa wireka haddaan double click ku siiyo aan details dhaho waxaan arkaynaa IP-giis inuu yahay 100.107 inuu yahay waa kow laakiin virtual machine-ka ku dhex install gareysan PC2 hadda aan shaashadiisa joogno virtual machine-ka Windows serverka haddii aan galo IP-ga uu qaatay virtual machine-kani waa 192 haddaan soo celiyo command-gii IP config wuxuu qaatay 192.168 boqol 12 ayuu qaatay waxaan rajeynayaa marka inaan arrintaas wada fahanay si lamid ah haddaan kusoo laabto wirelesska uu ku xiran yahay hostigani wuxuu ku xiran yahay wireless waa PC2 hostigan ka hadlayo wuxuu ku xiran yahay wireless wuxuu ka qaatay 10.10.10.253 ayuu ka qaatay VM1 kani waxa ii matala Windows 10 Windows 10 kana sidoo kale wuxuu noqday kaan inuu yaalo ama ku xiran yahay si toos ugu xiran yahay network 10 dan taasna aan dul marno waxaan tagayaa marka hore computerka PC2 aan shaashadiisa ayaan joogaa aan tago networkkiisa aan tagno sidoo kale wirelesskiisa wifi-giisa wuxuu ku xiran yahay networka Soma wuxuuna qaatay 10.10.10.253 ayuu qaatay haddaan galno Windows 10 ee virtual machine-ka ah Windows 10 kan virtual machine-kana sidoo kale wuxuu qaatay asaga haddaan dhaho IP TLS haddaan iska dhahno IP config all haddaan dhaho sidoo kale asagana wuxuu qaatay IP ah 10.10.10.252 ayuu qaatay marka lab 10 iyo lab 9 waxaan u jeedaa lab 8 iyo lab 9 waxaan ku baranay sida loogu bridge gareeyo virtual machines-ka aan ku haysano gudaha hostiga sida loogu bridge gareeyo marna wireless-ka marna wire-ka bridge gareynta marka maxay sababaysaa waxay sababaysaa inuu virtual machine-ka noqdo virtual machine si toos ugu xiran network lagu bridge gareeyay ha ahaado wireless ama ha ahaado wire weli ma aan dhameeyay labiski networking-ka aan sii wadno labiska networking-ka waxaan galayaa marka mid kale aan ku magacaabo marka lab 10 ayaan galayaa marka lab 10 waxaan ka hadlayaa marka arrin muhiim ayaan ka hadlayaa arrinta muhiimka aan ka hadlayaa marka waxaan ku magacaabaa waa network address translation NAT haddaan conceptiga kusoo koobo waa in IP address lagu bedelo IP address kale ayaa loola jeedaa NAT waa IP address ayaan ku translate gareynaynaa to IP address kale intaas kaliya waa NAT-ka marka NAT-ka maxaa naga quseeya markii aan joogno inaga VMware workstation-ka networking-kiisa waxaan sameynaya marka labkan haddaad u jeedid waxaan soo qaadanayaa labkan hadafkayga wuxuu yahay in VM-ka
aan ku magacaabnay VM10 ama virtual machine-ka saddexaad inaan soo qaato oo aan ku xiro NAT inaan ku sameeyo. sidee marka aan hadafkan u gaari karaa marka hadafkan waxaan u gaari karaa sidatan. marka hore step 1 waxaan sameynayaa sidatan. dhib ma laha hadda NAT-ka iyo waxaan sheegayo tusaalaha markii aan galno oo laabka sii galno ayaa si fiican u fahmi doontaa. hadda dhib ma lahan ila soco kaliya. step 1 waxaan sameynayaa sidatan. waxaan abuureynaa ama waxaan sameynaa switchka virtual switcheska aan haysana mid ka mid ah gaar ahaan midka 8aad ayaan waxaan ka dhigayaa NAT ayaan ka dhigayaa. si fiican iskaga fiiri meeshaan. aan stepka kood kuus aan wada sameyno marka hore. aan galo computerka PC2 aan galo waan joogaa mid PC2 waa kan VMware waan joogaa. aan tago edit aan tago virtual network editor aan tago. markaan meesha tago waxaan tagayaa change settings ayaan tagayaa yes ayaan leeyahay. waxaan meeshan haystaa VM10 ayaan VM8 ayaa meesha ii yaalo. VM8 already wuxuu yahay settingskiisa wuxuu yahay NATing ayuu yahay. NATing ka dhimala hadda waxba hadda isku weerin waan sii sharaxi doonaa. waxaan ka rabaa kaliya VM8 ka markaad tagto inaad doorato optionka NAT-ka bridge waa ka soo baxan. optionka NAT-ka ayaan dooranayna. optionka NAT-ka marka wuxuu dalbanayaa oo laga maarmaan ah inaad sameyso cinwaano inaad sameyso. hadda cinwaanka meesha aan ku hayso waa cinwaankee waa 192.168.211 cinwaanka waa bedeli karaa hatta aan bedelno waxaan leenahay sidatan. waxaan dooranaynaa network inaga inoo gaar ayaan dooranaynaa. tusaale ahaan waxaan ka dhigayaa sidatan waxaan ka dhigayaa 192 ama aan dhaho 172 aan dhaho 16.100 aan dhaho tusaale ahaan networkan aan sidaan ku qaadano kadib aan dhaho apply kadib okay aan dhaho. inta okay dhihin kaliya waxay ila egtaa VM8 virtual switchkan 8aad waxaan ka dhignay typekiisa waa NAT ayaan dooranay waxaana siinay cinwaankan ayaan siinay. laba waxay la ogaataa meeshaan DHCP-ga inaan ku enable gareynay. DHCP ayaa ku active gareysan. haddaan ka qaado meeshaan kuma active gareysano DHCP virtual switchka kuma active gareysano. haddaan meeshaan active gareeyana DHCP ayaa ku active gareysan. maxaa loola jeedaa marka DHCP-gan macnaheedu waxay tahay sidatan. aan apply ku dhaho okay aan dhaho aan sharaxaad wada tagno sabuuradda. waxaa leenahay sidatan. virtual switchkan waa NAT gareynay dib ayaan ka sharixi doonaa tan isku weereerini. labo virtual switchkani waxaan u dooranay network ayaan dooranay uu ka tirsan yahay oo ah 172.16.100/24. sidoo kale waxaan sameynay virtual switchkan 8aad waxaan ku active gareeyay serviceka ama khidmadda DHCP-ga. stepka koowaad intaan ayaan sameeyay. NAT ayaan doortay network ayaan doortay DHCP ayaan active gareeyay. macnaheedu waxay tahay marka macnaheedu waxay tahay sidatan. haddaan soo qaato VM virtual machine haddaan soo qaato virtual machine-ka saddexaad oo kale haddaan soo qaato aan dhaho fadlan virtual machine waxaa ku xiran tahay VMnet-ka waxaa ku xiran tahay haddii aan dhaho haddaan dhaho virtual machine-ka saddexaad waxaa ku xiran tahay virtual switchka 8aad aa ku xiran tahay haddii aan dhaho virtual machine-kan wuxuu qaadanayaa IP ka tirsan networkan ayuu si automatic ku qaadanayaa. waayo inaga waxaan enable gareynay DHCP waxaan ku enable gareynay virtual switchka 8aad oo macnaheedu waxay tahay haddaan kuu soo koobo waxay tahay kaan adigoo ka dalbanaya virtual switchka 8aad oo dhahaya fadlan virtual switch waxaan kaa rabaa walaalow in qof kasto ama virtual machine kasto aan kugu soo xiro fadlan walaalow waxaa ka siisaa virtual machine-kaas IP ka sii networkan 172.16.100 ah kuna sii si automatic ku sii. aan tijaabin intaan kadibna NAT-ka usoo laaban doonaa. waxba isku wareerin NAT-ka usoo laaban doonaa. hadda inta aan tijaabin aan galo computerka PC2 aan sii tago Windows 10-ka Windows 10-kan saddexaad waa virtual machine-ka saddexaad ayuu inoo matalayaa. waxaan tagaynaa marka VM settings ayaan leenahay. waxaan leenahay walaalow virtual machine-ka saddexaad fadlan waxaa ku xirantaa ayaan leenahay VMnet 8. saa u jeedina VMnet 8 waxaa hortiisa ka muuqda NAT 8 aan ku xiran okay ayaan leenahay waana daaraynaa marka virtual machine-ka.
hadda intuu daaranayo su'aalan ku weydiiyo virtual machine ka saddexaad IP uu qaadan doono waa IP ga ama network uu IP ka qaadan doona isku day inaad ka jawaabto hadda ilaahaday wuxuu ka qaadanayaa network ah 172.16 boqol jawaabtaadu waa sax waayo inagu waxaan dhahnay VMnet 8 waxaan ka codsanay walaal qof kastoo kugu soo xirmo ama virtual machine kastoo aan kugu soo xirno ABC automatic kaga sii network aan xadidno aha 172.16 boqol aan tijaabino inta markaan test gareeno netka u imaana marka netka waxa taana waa arki doonaa dhimala aan intaan tijaabino markuu soo kaco aan aragno okay yes aan dhaho isla markii AB uu qaatay laakiin AB ga halku ka qaatay aan eegno marka change adapter option aan tagno aan tago marka double click aan ku siiyo meeshan waxay arkaysaa marka computerkan wuxuu qaatay IP ah 172.16 boqol ayuu qaatay dot 128 ayuu qaatay laakiin meeshan waxaa arkaysaa in computerkan oo ku xiran VMnet 8 ku xiran inuu isticmaali karo internetka aan tasti garayo CMD aan binka ku sameeyo 8 internet ku xiran yahay waa sidee internet ugu xiranta adiga qoladii hore aan kusoo bridge gareeyay network VM1 kii aan ku bridge gareeyay virtual switch kan wireless ka internet wuu helay taana mantiq ay ahayd ama logic ay ahayd waxaan dhahnay wireless ka maadaama uu internet ku xiran yahay virtual machine kan aan ku bridge gareeyay wireless ka virtual machine ka sidaas ayuu ku helay internet ta sax ay ahayd laakiin sidoo kale virtual machine ka labaad waxaan ku bridge gareynay waxaan ku xirnay virtual switch 0 aan ku xirnay virtual switch 0 wuxuu ku bridge gareysnaa wire ka network wire kana wuxuu ku xirnaa internet ka taadirta marka virtual machine ka labaad aan ku soo xirnay VM am virtual switch ka 0 aan ku soo xirnay sidaas ayuu internet ku helay laakiin hadda scenario-gan lab ka 10 markaan joogno inaga waxaan haysanaa virtual switch 8 ayaan haysanaa virtual switch 8 kuma bridge gareynin wireless ka kumana bridge gareynin wire ka waxaan dhahnay kaliya walaal waxa inoo noqotay net inoo noqon taadirteed computer aan ku soo xirnay virtual switch 8 ama virtual machines kan ula jeeda aan ku soo xirnay virtual switch 8 waxay IP ka qaateen 172.16 boqol way ka qaateen laakiin si lamid ah internet way gali karaan sababta internet ku galeen marka waa netkaas ayaa sababay nado maxaa tahay marka net wax kale ma aha net marka la joogo virtual machine ka ama VMware workstation ka marka la joogo sidaan ay u shaqeeyaan wuxuu leeyahay netka computerada virtual machines ka aan ku soo xireyno VMnet virtual machine ka ama virtual switch ka 8 aan ku soo xireyno waxay ku jiraan network gaar ayuu ku jiraan waa ko labo network gaarka ah waxa loo bedelayaa canaawintan dhan waxa loo bedelayaa canaawinta aan ku isticmaalayno network wire ka salahan ayaa loo bedelayaa waa lagu translate garanayaa ama waxa lagu sameeyaa translation aan si kale kugu sharaxo aan tago marka sawirkan ayaa waadaxa aan tago sawirkan waxaan haysanaa inaga VM3 ayaan haysanaa VM3 waxaan ku sameynay net VM3 wuxuu ku jiraa network u gaar ah oo ah 172.16 boqol ka bilaaban ayuu ku jiraa maadaama net aad dooratay netka wuxuu u shaqeeyaa sidatan marka la joogo VMware workstation ka IP ga computerkan uu leeyahay ee ah VM3 ga IP ga uu qaatay oo ah 172.16 boqol hadda aragnay aan yara aragno mar kale aan ku laabto VM ka aan tago halkan ayuu ahaa waa VM3 IP giisa wuxuu inoo ahaa haddaan tagno meeshan IP giisa wuxuu ahaa 172.16 boqol 120 ayuu ahaa aan soo laabo meeshan iga soo laab meesha markaan joogno waxaan leenahay dhammaadka IP gan waa 100.128 IP ga marka VMnet oo haysto kama jiro networkan kama jiro wirelessna kama jiro wirekana kama jiro waa network saddexaad oo ka madax banaan networkiska aan haysano dhan waay netka maxuu tarayaa marka netka wuxuu leeyahay haddii VM kan 3 ga uu rabo inuu aado internetka inuu rabo haddii uu rabo inuu aado VM3 gani IP ga uu qaato ah 172.16 boqol 128 waxaan u bedeleynaa hostiga aan joogno IP ga uu haysto oo ah
192.168.111 kan ayaa loo bedelayaa. Any device oo VM ah oo aan dooranay NAT aan ku dooranay, NAT-kaasi cinwaanka uu qaatay markii uu rabo virtual machine-kaas, gaar ahaan virtual machine saddexaad aan joognaa, markuu rabo inuu internetka aado, IP-giisa 172.16.128 waa la qarinayaa, waxaa lagu bedelayaa si automatic ah, waxaa lagu bedelayaa hostiga IP-giisa realka ah ayaa lagu bedelayaa. saa darteed marka virtual machine-kan saddexaad hadda aan joogo, markaan binki gareynayo internetka oo aadayo internet, markaan aadayo internetka kuma aadayo cinwaanka realka uu haysto asaga. internetka waxaan ku galayaa cinwaanka uu leeyahay hostiga. hostiga waa hostige, waa computerkan asalka oo virtual machine uu ku dul abuuran yahay. waxaan rajeynayaa marka taa inaan ku yara wareertay inuu ku wereeriyey ayaan u maleynayaa, ma rajeynayo laakiin waan u maleynaya inuu ku wereeriyey, laakiin inaad fahantayna waan jeclahay. hadduu alla idmo, haddii aad fahmin waa isu weydii kartaa wixii marka su-aal ah. haddaan soo khulaaseeyo waxaan leenahay VMware Workstation markii aan joogno waxaa jiro option NAT ah. optionka NAT wuxuu inoo suura gelinayaa in virtual machineska aan ku xirnay switchka ama virtual switchka ee NAT-ka aan ku dooranay, markaan ku xirno virtual machineskan wuxuu suura gelinayaa in ay qaataan IP gaar ah sida IP 168.1.0 inay qaataan network gaar inay noqdaan. laakiin haddii rabaan inay external network communication la sameeyaan, waan NAT gareynaynaa cinwaankooda. cinwaankan ay qaateen waan NAT gareynaynaa, waan bedelaynaa, waxaan u bedelaynaa hostiga ay ku install gareysan yihiin IP-giisa ay isticmaalayaan, siday u galaan marka ay ula xiriiraan external network-ka. waa intaas keliya NAT-ka. haddaan soo koobo waa intaas. hadda waxaan qaadanay inaga labska aan sameynay, waxaan qaadanay lab 7, waxaan sameynay virtual machine 1 iyo virtual machine 2 aan dhexdooda waxaan ka dhex sameynay network gaar ah. lab 8 waan bridge gareynay network-ga, waxaan ku bridge gareynay wireless-ka. lab 9 waxaan ku bridge gareynay wire-ki. lab 10 waxaan baranay NAT-ki. waxaan hadda ku laabanayaa marka waxaan ku laabanayaa lab 11, waxaan dib ugu laabanayaa lab 7-ki. waxaan ka rabaa virtual machine 1 iyo virtual machine 2 inaan mar kale ka dhex sameyso network. yacni haddaan si kale kugu dhigo, lab 11 waxaan ka rabaa inaad ku soo celiso lab 7 inaad ku soo celiso, laakiin sharaxaad yar ayaan ku darayaa marka. maxaan sameynaa marka lab 11? waxaan lab 11 sameynaa sidatan: virtual machine-ka koowaad ee inoo matalo Windows 10-ka iyo virtual machine-ka labaad ee inoo matalo Windows Server-ka ayaan labadooda waxaan ka dhex sameynaynaa network. waxaana ku wada xireynaa virtual switchka lagu magacaabo 5 ayaan ku wada xireynaa. aan tagna marka aan sameyno, hore u sameynay laakiin waan ku celinayaa sida marka hal arrin kugu waadixiyo. Windows Server ayaan tagay, waxaan tagayaa settings, waxaan tagayaa sidoo kale bridge ayaan tagayaa, waxaan tagayaa custom-ki, waxaan tagayaa marka 5 ayaan tagayaa, waan dooranayaa. ilaan Windows Server waxaan ku xiray switchka virtual-ka ah ee numberkiisu uu yahay 5 ayaan ku xiray. Windows 10-kan aan tago, waxaan sidoo kale Windows 10-ka ku xirayaa isla virtual switchkii oo ah 5 ayaan ku xirayaa sidoo kale 5. okay ayaan leeyahay. labadan virtual machine waxaan ku wada xiray hal switch ayaan ku wada xiray. aan siiyo marka hal IP ama aan ka siiyo IP-gooda hal network aan ka siiyo. aan tago marka hadda kan virtual machine Windows Server aan tago, aan tagayaa halkan Ethernet change adapter option, aan siinayaa marka cinwaan network ayaan u doorayaa. tusaale ahaan kaba soo qaad, waxaan leeyahay fadlan ka qaado 172.16.1.1 ayaan siinayaa kan kuna daa classka fullkiisa ku daa ima lahan. okay ayaan leeyahay close. Windows 10 ayaan kusoo laabanayaa, waxaan tagayaa halka laga siiyo cinwaanka, waxaan leeyahay fadlan adigana walaalow waxaa qaadataa IP address qaado oo la mid ah isla network-ka uu ku jiro Windows Server-ka oo ah 172.16.1.2 ayaan siinayaa. labadooda marka misbinka garay karaa, marka mis arki karaan oo connection ma leeyihiin. aan tijaabino. tijaabino waxaan leenahay hadda waxaan ku jirnaa Windows 10 ayaan ku jiraa. IP config haddaan dhaho /all waxaa arkaynaa IP-gu inuu noqday 172.16.1.2. TLS aan dhaho, binka waxaan ku sameynayaa marka 172.16.1.1 oo ah Windows Server-ka.
laabkan hore aan soo sameynay waa laabka kood aan soo sameynay laakiin maxay dib ugu laabtay waxaa dib ugu laabtay waxay tahay labadan computer Windows Server iyo Windows 10 ka way is arki karaan laakiin midkoodna internet ma haysto midkoodna ma big garay karo internetka sababtu maxay tahay marka sababtu waxay tahay waxaan labadooda ka dhax sameynay network u gaar ah labadooda network u gaar ayaan ka dhax sameynay network marka aan soo sameynay ee laabka koowaadna laab 7 inoo ahaa haddana aan ku soo celinay ee laab 12 ka ah waxa ogaanaynaa in networkan uu yahay network u gaar ah between virtual machines kaliya u gaar ah network ka dhaxay labadoodana connection lama laha internetka networkan waxaa lagu magacaabaa marka la joogo VMware-ka waxaa lagu magacaabaa host dash only networkan kale laakiin ee netka ah virtual machines aan netka ku sameynayno internet way helayaan laakiin internet waxay ku helayaan through net IP-gooda waxa u bedelaynaa IP-ga hostiga ee internetka real ahaan ugu xiran waa marka la joogo netka marka la joogo bridge-kana labadan laab aan soo sameynay ee laab 8 iyo laab 10 kana ahna virtual machines-ka internet way heleen internet sababta ku heleen waxay tahay virtual machines-ka waxaan si toos ah ugu bridge gareynay marna wireless-ka oo virtual machines-ka wuxuu IP si toos ah kaga qaatay network wireless-ka ee real-ka ah sidoo kale lab 9 wuxuu virtual machine-ka IP si toos ah kaga qaatay network wire-ka darteed waxa mancinaya ma jiraan in virtual machine-ka aan ku sameynay lab 8 aan ku xirno wireless-ka iyo virtual machine-ka aan ku sameynay lab 9 aan ku xirnay wire-ka inay si toos internet ku galaan wax mancinaya ma lahan waxa kaliya manci karo in hostiga uusan ku xirnayn wireless ama ku xirnayn wire ama inuusan internet bijirinba taas ay manci kartaa laakiin waan ku xirnay internet marka waxaan dhahaynaa marka meeshaan netka iyo bridge-ka waa laba siyaabood aan virtual machine-ka ku sii karno internet halka host only kaliya la rabo network laga dhax sameeyo between virtual machines-ka dhexdooda kaliya aan rabin in virtual machines-ka ay internet aadaan waxaan rajaynayaa marka in hadda aan fahanay lab 7 hadda inaan si fiican u fahano waan rajaynayaa marka ilan lab 12 wax cusub ma jiraan waa lab 7 kaliya soo celiyay kaliya sida u siiyo host only si u fahano waxa loo jeedo host only waxaan galayaa marka hadda sidoo kale aan soo cesho kaas labka waxaan galayaa lab 12 practice lab 12 practice lab 12 waxaan practice ku sameynaya waxa loo yaqaano host only laakiin with real host maxaa ula jeedaa cinwaankan hadda waxba ku mashquulin waan ku sharxi doonaa maxaa ula jeedaa hadda waxaan haystaa virtual machine-ka koowaad iyo virtual machine-ka labaad waxay ku wada xiran yihiin hal switch ay ku wada xiran yihiin switchkaas waa switchkee haddaan hashaan tago waa switchka shanaad ay ku wada xiran yihiin switchka shanaad ay ku xiran yihiin waxaan rabaa marka networkan labadooda u dhaxeeya kaliya inaan ku soo biiriyo hostigan BC2 waxaan rabaa inuu ku biiro networka 5 inuu ku biiro ayaan rabaa ama virtual switch 5 inuu ku biiro ayaan rabaa haddaan si kale u dhigo marka lab 2 alif waxaan sameynayaa sida tan lab 2 alif waxaan leenahay lab 2 alif waxaan leenahay hadafkeenu wuxuu yahay in aan hostiga ku xirno virtual switch 5 inaan ku xirno faa'iidada ay leedahay maxay tahay marka hadda virtual switch waxaa inoogu xiran haddaan sawir meeshaan aan sawiro sawir ahaan v switch waxaa inoogu xiran laba computer ayaa ku xiran virtual switchka waxaa ku xiran virtual machine 1 VM1 iyo VM2 ayaa ku xiran su-aasheedu waxay tahay ama hadafkaygu wuxuu yahay lab 2 alif virtual switchkan 5 ma ku soo xiri karaa sidoo kale PC-ga realka ah ee hostiga ayaa inuu ku soo xiro hadafkayga guudna wuxuu yahay hadda waxaa meeshan ku haysanaa waa network 172.16.10 ayaan haysanaa virtual machine-kan koowaad labaad wuxuu qaatay 1.2 ayuu qaatay waxuu qaatay aan ula jeedaa 172.16.1.2 virtual machine-ka koowaad wuxuu qaatay 172.16.1.1 ayuu qaatay waxaa marka hostiga inaan siiyo asagana 172.16.1.3 inaan siiyo ayaan rabaa sida u noqdo marka hostigan mid kula xiran virtual switch ay ku xiran yihiin VM2 iyo VMnet1 sidoo marka connection ula sameeyo
aan taga marka hadda computer waxaan ka duu PC2 aan tago PC2 ga gudihiisa waxaan ku haystaa virtual machine ka koowaad ee Windows Server ka ah wuxuu haystaa cinwaanka ah 172.16.1.1 ayuu haystaa sidoo kale waxaa meeshan aan haysanaa virtual machine ka labaad oo ah Windows Server ka asagana addresskiisa haddaan soo qaadno meeshan addresskiisa waa haddaan double click ku siiyo details dhaho asagana waa 172.16.1.2 hadda labadooda kaliya ayaa is arki kara oo isku sameyn kara ping labadan kaliya ayaa wada sheekaysan kara oo wada xiriiri kara waxaan rabaa marka inaan soo dhex geliyo computerka hostiga oo ay ku wada jiraan inaan asagana ku xiro virtual switchka 5 inaan ku xiro ayaan rabaa waxaan ognaa marka inay computerada realka sida network ugu biiraan waxaa laga xukumaa network ay ku biirayaan halkan kaarka ayaa laga xukumaa waxaan halkan meeshan ku haystaa kaliya aad u jeedaan waxaan ku haystaa ethernet ka koowaad iyo waxaan ku haystaa kaliya iyo wifi ayaan ku haystaa waxaan marka rabaa meesha inay iga soo baxdo kaar saddexaad ama kaar afraad oo ah oo matalayo virtual switchka 5 ay ku xiran yihiin virtual machine ka koowaad iyo virtual machine ka labaad sidee ugu soo biiri karaa marka waxaan leeyahay sidatan waxaan tagayaa VMware ayaan furayaa waxaan tagayaa edit waxaan tagayaa virtual editor ayaan tagayaa waxaan leeyahay marka change settings ayaan leeyahay yes ayaan leeyahay waxaa kadib leeyahay meeshan add network ayaan leeyahay add network ayaan klik ku siinayaa switchka aan rabo marka inaan kusoo biiriyo waa switchka shanaad okay ayaan leeyahay inta marka hadda aan sameeyay ila fiiri inta aan sameeyay switchka 5 waxaan dooranaa inuu yahay host only inuu yahay ayaan dooranaya waxaan ka qaadayaa marka DHCP-ga oo default ahaan oo ku programsan yahay ayaan ka qaadayaa mar rabo hadii inuu DHCP-ga ama mar rabo inuu DHCP ahaan wax ii siiyo mar rabo kadib waxaan leeyahay marka apply kadib waxaan leeyahay okay difaac iskaga fiir meeshan okay ayaan leeyahay hadafka marka hadda aan stepka hadda aan sameeyay waxay tahay in virtual switchka 5 oo igaga soo muuqdo hostiga computerka realka inuu ka soo muuqdo hadda waxaan sameyn karaa marka hadda kaliya ayaan sameeyaa properties ayaan leeyahay waxaan tagayaa marka TCP version 4 ayaan tagayaa waxaan halkan ku qorayaa marka 172.16.1.3 ayaan siinayaa marka kana qaad meeshan sida uu ahaa ka dhig okay ayaan leeyahay kadibna okay ayaan leeyahay kadibna okay hadda furo marka CMD-ga computerka realka haddaan furo aan dhaho waxaa ping ku sameysaa 172.16.1.1 sorry wuu shaqeynaya haddaan dhaho sidoo kale waxaa ping ku sameysaa 172.16.1.2 yaa waaye 172.16.1.1 yaa waaye 172.16.1.2 ii kala yihiin waxay kala yihiin waa labada virtual machine ee aan network gaar ka dhex sameynay waa Windows Server-ki iyo Windows 10-ki labadan waaye labadan hore waxaan kaga dhex sameynay labadooda network gaar ah switchka ay ku xirnaayeen wuxuu ahaa switchka 5 ayuu ahaa switchka 5 markuu sidan yahay waa switch u dhaxeeya between networka computerada virtual machine ka koowaad iyo virtual machine ka labaad sida marka hostiga computerka realka aan kaga mid dhigo mid kamid ah computerada ku xiran switch 5 waxaan tagnay kaararka laga siiyo cinwaanka computerka realka waxaan meeshan ka weynay marka hore ayaan ka hadlayaa virtual switch 5 VMnet 5 meesha inooma oolin haddii VMnet 5 uusan meeshan oolin macnaheedu waxay tahay computerka realka ah kuma biirsami karo ama communication lama sameyn karo virtual machines ku xiran VMnet 5 sidoo marka VMnet 5 halkan inooga soo muuqdo waxaan sameynay stepka ah waxaan tagnay VMware waxaan tagay virtual network editor ayaan tagnay waxaan change settings ayaan dhahay waxaan sameeyay oo add network ayaan dhahay waxaan ku soo biiriyay meeshan 5 ayaan ka doortay 5 markii aan ka doortay 5 waxay ka soo muuqatay halkan ay ka soo muuqatay 5 maadaama ay tahay host only waan fahnay waxa loo jeedo host only waxaan ka qaaday kaliya jeega DHCP mar rabo markii in networkan uu noqdo network loo qaybinayo any device ee ku xiran VM5 mar rabo waxaan rabaa inaan networkiska ama qalabka ku xiran VMnet 5 waxaan aniga rabaa inaan si manual ahaan ah inaan ku siiyo canaawinta jeeg ayaan ka qaaday kaliya sidoo kale halkan ay ku qoran tahay connect meeshan waa inay jeeg ku saaran tahay waayo haddii meeshan jeeg saarneen kaarkan ama virtual switchkan 5 kama soo muuqanayo hostiga kama soo muuqanayo
waa meeshan jag ku saaran yahay maadaama jag meeshan saarnay hadda apply ma dhahayo cancel ayaan leeyahay waxaa processkaasi ku sameynay in hostiga BC2 aan ku install gareynay VMnet5 hadda VMnet5 ka meeshan waan ka bixi karaa see kaga bixi karaa haddaan ku laabto VMware-ka oo aan tago edit-ka aan tago virtual editor settings-ka haddaan tago aan change settings dhaho aan yes dhaho aan tago meesha VMnet5 ka haddaan tago waa switchka 5 haddii aan tago aan ka qaado jaga meeshan connectiga haddaan ka qaado aan apply dhaho aan okay dhaho taa waxay sababaysaa markaan computerka realka imaado in VM5 la waayo meeshan hadda waa ka waayo meeshan ma taal taa darteed computerkan hostiga aan wax ka midkan hadda ay ku jiraan virtual machines ay ku dul install garaysan yihiin asaga connection lama samey karo virtual machines sidoo connection ula sameeyo wuxuu u baahan yahay inuu haysto switch ay ku xiran yihiin kaar matalo inuu ka soo muuqdo halkan sidoo aan u sameeyno waxaan sameynay edit ayaan tagay virtual editor settings ayaan tagay 5 haduu ii yaala kaliya waxaan sameynayaa 5 maadaama ii yaala kaliya waxaan sameynayaa connect la leeyahay waa jag ayaan meeshan saaraya apply okay ayaan leeyahay jagan waxay sababaysaa marka in ay ka soo muuqdo ama switchka 5 in uu kaar ahaan kaga soo muuqdo through halkan waana kan hadda soo jeed meeshan waxa ii soo baxay waa VMnet5 ay soo baxay hadaan double click siiyo aan tago properties aan tago TCP version 4 waxaan siinayaa marka IP lamid IP-da ay haysteen VM1 iyo VM2 ee ku xirnaa switchka shanaad waxaan leeyahay salahan 13 ayaan leeyahay kadib waxaan leeyahay subnet maskina qaado okay close hadda bankiga furo wuxuu la xiriiri karaa virtual machine-kii koowaad uu la xiriiri karaa kii labaadna uu la xiriiri karaa waxaan rajaynayaa marka hadda laabkan laab 12 inaan fahanay how sida hostiga waa computerka virtual machines ku install garaysan yihiin sida loogu xiro hostigaas virtual switch muayyan ah tusaale ahaan virtual switch 5 taan ay suura geliso any virtual machine oo already ku xirnaa virtual switch 5 sida virtual machine 1 iyo virtual machine 2 oo hostigani uu connection ula sameeyo waxa hadda ka soo khulaasaysan karnaa lab 12 sidatan waxaan dhihi karnaa lab 12 virtual machine-ka koowaad iyo virtual machine-ka labaad ma haystaan connection internet ma haystaan waayo waxay ku xiran yihiin host only virtual switch ay ku xiran yihiin oo 5 ah aanan bridge ku ahayn wireless iyo wire labo waxaan ka soo dhirsan karnaa oo aan fahmi karnaa lab 12 oo dhihi karnaa hostiga ay virtual machine 2 iyo virtual machine 1 ay ku wada jiraan hostigaas waa BC2 wuxuu connection la sameyn karaa virtual machine 1 iyo 2 inagoo sameynayna steps-ka ah in hostiga aan ku install gareyno ama aan virtual switch 5 inaan ka soo muujino kaararka uu leeyahay hostiga labo kaararka uu leeyahay hostiga markii aan galno waxaan galaynaa VMnet5 ayaan galaynaa oo ka soo muuqday computerka hostiga waxaan siinaynaa marka address ayaan siinaynaa oo ah address hoos imaado network ay ku xiran yihiin VM1 iyo VM2 waxaan rajaynayaa marka inaan lab 12 na aan fahano waxa ula jeedo sidaa marka waxaan kusoo koobi karnaa oo aan dhihi karnaa intaad aan practice gareynay waa inta aad kaga baahan tahay virtual ama VMware workstation-ka networking-kiisa haddaan soo khulaaseeya marka waxaan dhihi karaa sidatan networking-ka virtual VMware workstation-ka waxaan haysanaa 3 qaybood oo muhiim ah mid waa bridge mid waa net mid waa host only bridge waa sidaan sheegnay waxaa lagu ogol yahay kaliya in only single virtual switch aa ku bridge gareyso wireka sidoo kale only single virtual switch waxaa lagu ogol yahay inaad ku bridge gareyso wireless-ka waa marka laga hadlayo bridge-ka oo suuragal maaha inaad soo qaato laba virtual switch oo kala duwan aan ku wada bridge gareeyo labadoodaba hal wire ama kaarka wire-ka inaan ku wada bridge gareeyo taas ma suuragalayso net-ka waxaan soo dhahnaa waa special kaliya waxaa lagu ogol yahay VMware-ka inaad isticmaasho only net-ka inaad isticmaasho hal mar ay isticmaali kartaa laba mar ma isticmaali kartid halka mar isticmaalisna waxay kuu suuragelinaysaa sidatan
haddaan tijaabino haddaan galno meeshaan pc2 haddaan galo oo aan VMware-ka sii tago oo aan tago meeshaan VM settings haddii aan tago waxaa ula jeedaa cafwan edit haddaan tago aan tago virtual network editor haddaan tago aan change settings dhaho aan yes dhaho meeshaan waxaa meeshaan tusaale ahaan kasoo qaad switchka 5 ma ka dhigi karaa net ma ka dhigi karaa aan tijaabino net haddaan dhaho wuu diidaya marka maxaa ii soo baxay wuxuu leeyahay cannot change network net only one network can be set to net kaliya hal virtual switch ayaa waxaa ka dhigi kartaa net ka dhigi kartaa virtual switchka hadda netki inoo ah waa virtual switchke waa virtual switchka 8aad ayaa net inoo ah haddii hadda aan rabo inaan aniga 5 ka dhigo net waxaa u baahnaa marka hore inaan netka ka qaado virtual switchka 8aad inaan ka qaado sidee kaga qaadi karaa virtual switchka 8aad waxaan ka dhigi karaa host online ka dhigi karaa marka host online ka dhigo aan apply dhaho waxaa imaanaya marka switchka 5 ayaa imaanaya waxaa hadda dooranaya marka net ayaan dooranaya marka apply hadda waa dhigi karaa aduu iga aqbalaya marka host only any virtual switch host only waa ka dhigi kartaa numbers badan ayaa ka dhigi kartaa laakiin netka waxaa lagu ogolyahay kaliya hal mar ayaa lagu ogolyahay bridge-kana waxay ku xiran tahay waxa aad bridge garaynaysid wireless-ka hal virtual switch ay ku bridge garay kartaa wire-kana ama kaarka wire-kana waxaa ku bridge garay kartaa hal virtual switch sida inaga aan sameynay VMnet 0 waxaan ku bridge gareeyay ethernet-ka waa kaarka wire-ka VMnet 1 waxaan ku bridge gareeyay wireless ayaan ku bridge gareeyay tan ina fahanay ayaan rajeynaya marka tan khulaasada kusoo laabto netka only one time ayaan adeegsan karnaa only one switch ayaa la ogol yahay kaliya haddaan tagan marka host only-ga more than one waa samaysan kartaa more than one ayaad lahaa kartaa waad samaysan kartaa laakiin host only-ga kaliya waxa weeyaan haddii ani host only aan doorto tusaale ahaan haddaan virtual switch 7 aan ka dhigo host only haddaan ka dhigo virtual machines aan kusoo xirayo virtual switch 7 way wada xiriiri karaan connection way samayn karaan laakiin step kale ay samayn kartaa oo ah host only-ga kaarka ku ah ee virtual switch 7 oo kale waxaa ku xiri kartaa hostiga waa ku xiri kartaa kali waxa u baahan tahay in virtual switch 7 aad ku install gareysid gudaha hostiga oo waxaan ula jeedaa kaararkan meesha ku yaala mid kamid inuu kasoo muuqdo oo ku matalo VMnet 7 oo kale inuu ku matalo ayaa laga maarmaan intan waxaa kusoo khulaasay karnaa marka noocyada networking-ka ee VMware-ka hadda laakiin marka maadaama aan dhamaadka darsiga soo gaarnay aan ku sharaxo marka waxyaabo qaar oo default-iga ah markii aan install gareynaynay VMware Workstation aan ku install gareeyo computerka waxaan ku dhahay kaarar ayaa meesha iga soo biiray VMnet 1 iyo VMnet 8 si automatic ah ay waxay ugu soo biireen kaararka aan ku haysto computer waxaa hadda baranay in any car ama any virtual switch aan rabo inaan kusoo biiri karo halkan aan kasoo muuji karo haddaan tas yar ku siiyo waxaan ku dhahay tusaale ahaan kasoo qaad aan tas yar ku siiyo quiz-ka aan ka dhigi kan quiz-kii aan dhahayo waxaan kusoo khatimaya darsiga aan kan ka dhigo quiz-kan aan ku weydiiyo waxaa sameysaa virtual machine 1 iyo virtual machine 2 labadooda waxaa ku xirtaa virtual switch-ka waxaa ku xirtaa virtual switch 7 ku xir waa midda koowaad waa su-aasha qaybteeda koowaad VM1 qaado ku xir virtual switch 7 sidoo kale virtual machine 2 ku xir virtual switch 7 ku xir network-goodana waxaa siisaa 172.16.20.0/24c oo macnaheedu tahay virtual machine 1 wuxuu qaadanayaa 20.1 virtual machine 2 wuxuu qaadanayaa 20.3 ayuu qaadanayaa laba waxaan kaa dalbay network-gan inaan kusoo xirto hostiga PC-ga matalo hostiga asagana ka mid dhig mid ku xiran virtual machine 7 kusoo xir kadibna waxaa sameysaa hostigani waxaa siisaa 172.16.20.3c quiz-kan aan ku practice gareyno aan aadno BC2 aan aadno saan u practice gareyno inta marka BC2 aadin waxaan ku wada heshiinaynaa arrimahan virtual switch 7
maadaama uusan bridge ku ahayn wireka iyo wirelesska kombiyuutaradan VM1 iyo VM2 maadaama ay ku jiraan network gaar ah internet ma ku xirmi karaan. sidoo kale virtual switch 7 maadaama uusan ahayn net, maadaama uusan ahayn kombiyuutarada virtual machine 1 iyo virtual machine 2 internet ma aadi karaan. kaliya hadda waxaan samayn karnaa ama hadda kaliya waxa inoo virtual switch 7 kaliya wuxuu inoo yahay waa host only. tamam, waa host only. PC-ga hostiga marka ee virtual machine 1 iyo virtual machine-ka ay ku wada jiraan gudihiisa waa hostigan. sidee virtual 7 ama virtual switch 7 sidee ugu soo xiri kartaa? kaliya waxaa u baahan tahay in kaararka uu leeyahay PC-ga realka ah, kaararkiisa waxaan ula jeedaa kaararka uu kaga biiro network-ga mid kamid waa inuu noqdaa virtual switch 7 waa inuu noqdaa. halkaas ayaad ka siinaysaa marka cinwaanka ah 172.16.20.3 halkaas ayaad ka siinaysaa. aan kan practice gareyno sida marka aan inoogu noqoto muraajaco. hadda waxaan galay BC2 ayaan ku jiraa, BC2 ayaan joogaa. marka hore aan eegno kaararkiisa dan kaliya ku sii meeshaan. hadda aniga meeshaan ma haysto virtual switch 7 ma haysto. ma kusoo biiri karaa marka virtual switch 7 ma kusoo biiri karaa halkan? waa kusoo biiri karaa. intaan laakiin kusoo biirin aan marka hore virtual switch 7 aan ku xiro VM1 iyo VM2 aan kusoo xiro marka hore. aan taga marka VM workstation aan tago, waxaan tagayaa Windows serverka ayaan tagayaa. Windows serverka wuxuu ii matalayaa virtual machine 1 ayuu ii matalayaa. waxaan ku xirayaa marka Windows serverka, waxaan ku xirayaa VM ayaan tagayaa, settings ayaan tagayaa, waxaan ku xirayaa marka switch 7 ayaan ku xirayaa, VMnet 7 ayaan ku xirayaa. okay ayaan leeyahay. sidoo kale Windows 10 wuxuu ii matalayaa virtual machine 2 ayuu ii matalayaa. waxaan tagayaa VM settings ayaan leeyahay, waxaan ku xirayaa sidoo kale 7 ayaan ku xirayaa. okay ayaan leeyahay. labadooda marka waxay ku xirmeen hal switch ay ku wada xirmeen. ma wada xiriiri karaa marka in IP-da ka bedelo sida IP-da in la siiyay aan ka dhigno. waxaan leenahay sida tan kan internet dhaho aan adapter settings aan dhaho click aad ku sameeyo meeshaan aan tago meeshaan TCP version 4 meeshaan waa 20.1 okay aan dhaho. okay waa virtual machine code IP ayaan siiyay. virtual machine ka labaadna aan tago aan leeyahay waxaan galayaa kaarkiisa, waxaan siinayaa sidoo kale kanna aan siinayaa properties aan tagno TCP-ga sidoo kale waxaan ka dhigayaa 172.16.20.2 ayaan ka dhigayaa marka labadood. mis arki karaa marka ma isbeenka garay karaan. isku beenka garayaan waxaan galayaa marka hadda waxaan ku jiraaba virtual machine 2 ayaan ku jiraa ee Windows 10 ka ah ayaan ku jiraa. waxaan leeyahay ipconfig/all ayaan leenahay. waxaan fiirinaynaa marka IP-giisa waa 172.16.20.2 dan CLS dhaho bing waxaan ku sameynayaa marka 172.16.20.1 oo ah Windows serverka ayaan bing ku sameynayaa. connection way leeyihiin laakiin labadooda connection lama lahan, internet lama lahan. labo aan tijaabi inaysan internetka connection la lahayn aan hubino. bing aan dhahno to google.com ma lahan. bing to 888 waa server public ah ee internetka yaala. 888 IP-gan waxa iska leh serverkaas ee public ah. hada inta dhaho sidoo kale internet ma aadi karo, connection lama sameyn karo. even gateway xataa ma lahan, gateway-ga ma lahan. marka waxaan leenahay labadoodan maadaama hadda uu ka dhaxeeyo hal switch oo ah virtual 7 sidee hostiga ay ku wada jiraan oo computerkan sidoo kaga mid noqon karaa network labada virtual machine hadda aan ka dhex sameeyno. waa simple. waxaan kaliya rabnaa in meesha aan kusoo ka aragno virtual switch 7 ama VMnet 7 waa inaan meeshaan ka aragnaa. sidee kaga arki karnaa? waxaan tagaynaa VMware-ki, waxaan tagay edit, waxaan tagayaa virtual network editor ayaan tagayaa. kadib waxaan tagayaa change settings, yes ayaan leeyahay. markaan yes dhahno waxaan le add network ayaan leeyahay, add network. waxaan dooranayaa network aan rabo ah ama switchka aan rabo ah 7 ayaan dooranayaa. okay ayaan leeyahay. waa stepkani weli maan dhamaystirin. stepna markuu inta kasoo muuqdo wuxuu kasoo muuqanayaa as host only ayuu kasoo muuqday waa sida aan rabno. jegan wuu inoo saaran yahay connected to host virtual adapter wuu inoo saaran yahay. kaliya waxaan ka qaadayaa kan aan ka qaadaya DHCP ma rabo inuu asaga wax qeybiyo. aniga ayaa canaawinta automatic ama manual ahaan ku siisanayo IP-yada. apply ayaan leeyahay. kadib waxaan leeyahay
okay ayaan leeyahay. marka sidaan sameeyo aan computerka aado waxaa arkayaa marka virtual vmnet 7 inuu meesha iga soo muuqday. double click ayaan ku siinayaa, properties ayaan leeyahay, waxaa tagayaa marka tcp/version 4 kadib waxaan siinayaa marka cinwaan lamid ah canaawinta ay ku jiraan vmnet 1 iyo vmnet virtual machine 1 iyo virtual machine 2 oo kala ah 172.16.20.3. internet maskina waxaan adeegsanay 3 mar 2 mar 255 iyo 0. okay aan dhaho kan okay close aan dhaho. marka hadda marka haddii aan furo waxaan ku jiraa computerka hostigii shaashadiisa ayaan hadda joogaa. haddaan cmd giisa furo aan dhaho marka walaalow waxaad ii tasti garaysaa inaad connection la leedahay ping inaad ku samayn karto 172.16.20.1 oo ah windows serverka. connection ma la leeyahay? aan hubino connection wuu la leeyahay. si lamid ah aan hubino inuu connection la leeyahay windows 10 oo ah 172.16.20.2 ayra sugno. si lamid ah wuxuu connection la leeyahay windows 10 kana connection wuu la leeyahay. intaan waxaan isleeyahay marka inaan quiz-kan fahanay aan ku fahanay noocyada kala duwan networkska ee aan ku haysano gudaha VMware Workstation-ka. hadda marka aan sameeyo marka lab 12 waan sameynay, labka 13aad aan galo waana lab aan kusoo khatimayno kaliya. labka 13aad waxaan u bixinayaa project ayaan u bixinayaa. projectkan waxa aan ka rabo aan ku sharaxo waxaad haysataa adiga hostigii ayaad haysataa waa BC2 hostig wax inoo matalayo waa hostigii gudihiisa waxaan ku haysanaa VM1 iyo VM2 ayaan ku haysanaa. waxaa hostigan wuxuu connection la leeyahay wire iyo wireless. kani waa wirelesski, kanna wirelesski waay kan less aan dhaho, kanna waa wireki. projectin wax kala maha marka. projectin kali waxaan kaa rabaa in VM1 aad ku bridge gareyso wireka. laba wireless meesha ku soo celiyo waa wire iyo wireless afwan. VM1 waxaan kaa rabaa inaad ku bridge gareyso wireka, yacni VM1 inuu noqdo computer ka tirsan network wireka. kadib aad gasho computer kale oo ku jiro wireka, waa computer darsigeed aan ka duubayo wuxuu ku jiraa sidoo kale wuxuu connection la leeyahay wire ayuu connection la leeyahay. computer aan darsiga ka duubayo sidoo kale ayaan galaynaa. markii aan galno waxaa marka meeshaan haysanaa marka switch meeshaan ku haysanaa switch oo real ah waayo. meeshaan waxaa ku xiran BC1 waa midka darsiga ka duubayo, BC2 oo hostig ah sidoo kale uu ku xiran yahay. laakiin through the virtualization waxaan sameynaynaa in VM1ka waa VM1kani uu noqdo computer si direct ugu xiran wireka ayuu noqonayaa. halka ayuu imaanaya marka wuxuu IP ka qaadanaya marka IP-ga wireka oo aan hore usoo sheego ah 192.168.100/24 ayaan ku haystaa. marka intaan sameyno kani marka waa virtual machine-ka Windows-ka marka Windows 10 waay. waxaan kaa rabaa marka sidoo project u dhamaystirno waxaad remote desktop ku sameynaysaa adoo ka sameynaya marka BC1 waxaad remote desktop ku sameynaysaa virtual machine-kan. virtual machine-kan waa inuu hortaad imaadaa marka adigoo jooga BC1 ilaan virtual machine marka ku bridge gareyso wireka wuxuu noqonayaa mid kugula jiro network adiga ku xiran tahay. inaga hadda waxaan joognaa marka BC1 ayaan joognaa. BC1 waa midka hadda aan darsiga ka duubayo u jeedaan shaashadiisa. marka projectigan u sameyno marka hore waxaan ku qasbanaa in BC2 aan tagno waa halka uu ku install gareysan yahay virtual machine-ka Windows 10-ka. markaan galno waxaan furaynaa VMware ayaan furaynaa. waxaan tagayaa Windows 10 ayaan tagayaa. waxaan tagayaa networking-kiisa setting-kiisa ayaan tagayaa. network-giisa waxaan ku bridge gareynayaa marka VMnet 0 iskana fiir meeshan waa VMnet 0 markasta okay ayaan leeyahay. waxaan ku celiyay mar kale setting-kiisa markaan tago hadda meeshan bridge ayaan meeshan tagay. bridge-ka haddaad dooratana waa kaan adoo dooratay VMnet 0 okay. markaan dhahno waxaan tagayaa marka halkan networking ayaan tagayaa waa network kaarkii ethernet-kii change adapter option kaarkiisa waxaan leeyahay fadlan maadaama lagugu bridge gareeyay network wireka IP waxaa ku qaadataa through DHCP. laakiin meeshan saan iskaga fiiri step aniga hadda aanan sameynin ayaa jira oo ah in VMnet 0 aan ku bridge gareeyo wireka.
taa already ayaan usoo sameynay lab 8 iyo lab 9 aan kusoo sameynay practice lab 8 iyo practice lab 9 ayaan kusoo sameynay hadda kaliya waxaan sameeyay Windows 10 waxaan ku xiray kaliya bridge aan ku xiray oo VMNet0 ah VMNet0 na already wuxuu ku bridge gareysnaa wire ayuu ku bridge gareysnaa hadda marka Windows 10 AB uu qaato aan fiiriyo wuxuu qaatay AB ah 192.168.112 ayuu qaatay aan soo laabo marka computerka labaad oo dhan aan ka baxo plus aan iska dhahabo okay aan ka baxo hadda waxaan kusoo laabtay aniga computerkayga hadda aan darsiga ka duubay aan kusoo laabtay wax VMware workstation iyo furan ma lahan wax remote desktop aan ku jira ma lahan computerka hadda darsiga ka duubay marka wuxuu ku xiran switch ayuu ku xiran yahay switch waxaa kula sii xiran PC2 gudihiisa waxaa ku jira virtual machine-ka Windows 10-ka virtual machine-ka Windows 10 waxaan ku bridge gareynay wire-kii kaana waxay noqonaysaa PC-ga wax ka duubayo iyo virtual machine-ka in isku network yihiin marka hore PC waxaan ka duubayo network-giisa aan iska eego kaarkiisa aan tago ethernet-ka wuxuu qaatay IP ah 192.168.112 yani 100.11 virtual machine-ka Windows 10 muxuu qaatay 100.112 ayuu qaatay aan bink gareyna marka CMD aan furaya hadda waa computerka hadda darsiga ka duubayo CMD-giisa ayaan furayaa waxaa bink gareynaya marka virtual machine-ka ee Windows 10-ka ee ku dhex jiro gudaha PC2 ayaan bink gareynaya marka waa 192.168.112 binki wuu shaqeeyay waxaa marka ku khatimaya marka darsiga remote desktop ayaan furayaa waxaa horteeda keenaya marka hadda 192.168.112 waa virtual machine-ka AB aan iska leh ayaan horteen hadda keenina marka haddaan connect dhaho waxaan rajeynaa inuu yahay Soma userka 1 passwordka okay yes aan dhaho okay hadda waxaan ku dhex jirnaa marka virtual machine oo ku dhex jiro PC2 ayaa hadda remote desktop ku sameeyay projectan waan fikrada waan ku soo koobi doonaa hadda waxaan rajeynayaa in ila fahanto hadda waxa ku dhex jira marka aniga waa virtual machine waa virtual machine ku dhex jiro gudaha PC2 haddaan ku sharxo marka wax aan sameynay haddaan main picture-ka aan tago waxaad sameeyay wax kale ma aha computerkan PC1 ee aan darsiga ka duubayo ee ku xiran network 192.168.100 wuxuu awood u lahaaday inuu remote desktop ku sameeyo virtual machine-ka ku dhex jiro PC2 maadaama virtual machine-kan aan ku bridge gareynay aan ka dhignay kaan inuu yahay mid dhex yaala network wire-ka ee ah 192.168.100 wuxuuna virtual machine-ka ka qaatay IP network-gan oo ah wuxuuna qaatay 192.168.111 ayuu qaatay darteed PC-gan iyo virtual machine way is arki karaan marka maadaama is arki karaan waxaan awood lahaa marka inaan remote desktop ku sameeyno virtual machine-kan kaan hadda qofka meeshaan arko wuxuu isleeyahay waa computer caadi ah oo meel kale yaala aan ku sameynay remote desktop laakiin xaqiiqatan marka loo imaado kani waa computer caadi maaha waa virtual machine waay haddaa marka concept-kan u rarto marka shirkadaha waaweyn iyo data centers-ka dhammaan marka operating systems-ka iyo nidaamyada aan ku shaqeynayno dhan waxay ku wada jiraan serveraad ay ku jiraan ama servers ay ku jiraan waxaan la tacaamulaynaa marka inaga virtual machines kaan inay yihiin physical computers sida aan sameeyno oo kale project aan sameeyno waxaan rajeynayaa marka inaad darsigan aan ka faa'iidnay haddii yara jiraan waxyaabo aan yara iloobay aan isdhahayay sharax ka hal noqda fikir iska badan yihiin laakiin waxaan isku dayay inaan practice lab aan shirka kusoo koobno aan labs sameyno waxaan marka rajeynayaa marka in labskii xageen inaga aadeen waxaan soo gaarnay ay ahayd labka 13aad kan wuxuu ahaa marka project aan sameynin ayuu ahaa projectin waan sameynay waxaa marka darsiga soo socda waxaa inoo balan ah inaan darsiga soo socda ku sameyno practice ESXi type 2 ama type 1 cafwan type 1 hypervisor sidoo kale waxaan isku dayi doonaa in aan wax idinka tuso virtual box iyo hyper-v sida labadoodana loo isticmaalo hadda aniga waxaan si dib u sharaxnay oo aan practice ka sameeyay waa VMware workstation waxaan isku dayi doonaa sidoo kale hyper-v iyo virtual box aykan ah type 2 hypervisors aykan sida loo isticmaalo inaan mar idin tuso
haddii aad dersiga meesha hadda aan marayo oo dhammaadkana aad soo gaartay magacaaga iigu qor commentiga. waxaan marka rajeynayaa marka in aan ardayda commentiga magacyada iigu qorto oo ay taa ii caddeynaysa in ay yihiin arday taabacaysa muxaadaraadka si tartiib ama si u taabacayso sida casharada u kala horeeyaan iyo videoga dhammaadkiisa soo gaaraya. waxaan sii doonaa hadduu alla idmo hadiyad casharada qaar ama koorsaadka qaar ee noqon doona lacagta ay waxay ku heli doonaan si free ah ama qiimo dhimis fiican ay heli doonaan. insha Allah darsiga marka soo socda wuxuu noqon doonaa practice. waxaan sameyn doonaa ESXi oo ah type 1 hypervisor. type 1 hypervisor si loo install gareeyo ayaan baran doonaa, sida virtual machine loogu abuuro ayaan baran doonaa, networkingkiisa ayaan wax ka arki doonaa. laakiin type 1 hypervisor dowro ama course dhan la barto ayuu leeyahay lagu magacaabo data center virtualization shahaadana looga qaato VMware. macadka Somana wuxuu ictimaad ka haystaa sidaan hore idinkugu sheegay oo aqoonsi ka haystaa VMware. waxaana license u haysanaa inaan bixi karno koorsaadka VMware-ka sida data center virtualization-ka iyo network virtualization-ka. markii aan koorsaad rasmi ka sameeyana waan idinla share garay doonaa hadduu alla idmo, ha ahaato si free ah ama ha ahaato si lacag ahba waan arki doonaa waqtigeeda. marka darsiga soo socdo ESXi aan focus ka saari doonaa, laakiin haddii ay jirto baahi virtual boxka iyo hyper-v inaan cashiro ka sameeyana commenti iigu sheega, waan ka sameyn doonaa video waan ka sameyn doonaa. sidoo kale darsigan waxaa focuska aan ku saareynay waa networking. darsiga hore waxaan focuska ku saarnay oo aan baranay isticmaalida installationka virtual machine iyo snapchat-ka arrimo badan ku sameynay. marka waxaan dirayaa marka exercise ayaan dirayaa exercise aan diraya marka waa sidatan. waxaan arday kasta ka rabaa oo cashirkan ka faa'iideysay ee la socda VMware workstation soo deji, computerka ku install garay, Windows Server operating system-kiisa raadso, soo deji, kadib waxaa ii abuurtaa Windows Server virtual machine oo Windows Server ah ku abuur operating system-kaaga ee hostiga ku abuur. screenshot iiga soo qaad, ii soo sawir, waxaad iigu soo dirtaa emailkan iigu soo dir. insha Allah tacaala ardayga sidaas sameeyana waxuu heli doonaa insha Allah tacaala hadiyad ayuu heli doonaa macadka Soma. waxaan marka rajeynayaa marka inaan darsigan ka faa'iidnay hadduu alla idmo. wixii su'aalo way soo weydii kartaan. intaan darsi kale ku kulmi doono waxaan idin rajeynayaa marka nabadgelyo iyo dadaal wacan ayaan idinka rajeynaya insha Allah tacaala.